Filinku wuxuu ku bilaabanayaa gabadhan ayaa boorso u qaadatay goob loo dalxiis tago si ay uga qayb gasho arooska hooyadeeda. Waxay dib kala kulantay fuulista baska, laakiin intaanay fariisan ka hor ayuu darawalkii si kedis ah bareega u qabtay. Way istaagi weyday markaasay si lama filaan ah ugu fadhiisatay wiil dhalinyaro ah dhabtiisa. Muuqaalka like noo saar aan kugu celiyo filinka. Labadooda weligood hore iskuma aynaan arag, laakiin hadda waxay ku jiraan xaalad xasaasi ah oo aad isugu dhow. Wiilkii ayaa samirka ka dhamaaday, wuxuuna gabadhii u sheegay inay kor uga kacdo oo ay ka tagto. Intii safarka lagu jiray oo dhan labadoodu way xishoonayeen, mana aysan ku dhiiran karin inay isfiiriyaan. Xilligaas wiilku weli ma uusan ogeyn in sheekadiisii jacaylka ee gabadhan ay halkaas ka bilaabatay. Wiilka magaciisa waxaa la odhan jiray Jinjaak, waana wiil uu dhalay nin hodan ah kaas oo jeclaa xafladaha iyo qoobka ciyaarka baararka waaweyn. Qoyskiisu waxay ahaayeen qani, isaguna wuxuu ahaa quruxlow, sidaas darteed gabdho badan ayaa daba carari jiray. Inkasta oo uu xiriiradaas u arkayay keliya wax lagu madadaasho, haddana kama uusan baxsan karin saamaynta ay ku leeyihiin. Maalintaas sidii caadada u ahayd wuxuu tagay baarka. Wuxuu si lama filaan ah ula kulmay gabar fanaanad ah oo caan ah. Labadoodu waxay daqiiqada ku qaateen wada sheekaysi. Si lama filaan ah waxaa sawiro ka qaaday dadka caanka ah dabagala. Maalintii xigtay warbaahinta ayaa warkaas meel kasta ku baahisay. Markii uu aabihii Jinjaak maqlay warkaas, aad ayuu u carooday, wuxuuna go'aansaday inuu Jinjaak u diro goobta dalxiiska ee shirkadda qoyskoodu leeyihiin si uu halkaas uga shaqeeyo. Sidoo kale wuxuu ka qaatay gaarigii uu wadan jiray. Isaga oo aan raali ka ahayn ayuu kaaliyaha la raacay Jinjaak bas. Halkaas ayuuna kula kulmay Yami oo ahayd gabadhii calafkiisa ahayd. Kadib Yami waxay timid goobtii dalxiiska. Markii ay hooyadeeda aragtay gabadheeda oo xiran dhar madow oo rasmi ah, markiiba xanaaq ayaa qabtay. Markaasay hooyadeed si degdeg ah ugu yeertay qof dadka qurxiya si uu gabadha wax uga bedelo. Markiiba waxay isku bedeshay gabar aad u macaan oo soo jiidasho leh. Si kastaba ha ahaatee, hooyadeeda waxay weli dareemaysay inay wax u dhiman yihiin. Markaasay shaqaalihii ku amartay inay keenaan waxyaabo kale. Inkasta oo ay Yami diiday, haddana hooyadeed waxay gabadhii siisay soo jiidasho cajiib ah. Waqtigan Jinjaak wuxuu yimid hoteelkii kooxda si uu ugu shaqeeyo kastamar badan. Wuxuu ahaa wiil ka dhashay qoys qani ah, markaas ma uusan u dulqaadan karin inuu halkan ka shaqeeyo sidii shaqaale hoose ama nadiifiyaha musqulaha. Sidaas darteed wuxuu isticmaalay marmarsiyo ah inuu keeg geynayo si uu baxsado. Laakiin markaas wuxuu si lama filaan ah ugu dhacay Yami oo xaggiisa u soo socotay. Wuxuu u fidiyey gacantiisa si uu uga badbaadiyo inay dhacdo, balse si lama filaan ah keegii ayaa kaga dhacay wejiga gabadha. Iyagoo naxsan ayay labadoodiiba dhulka ku dhaceen. Kulankoodii ayaa mar kale ku dhamaaday masiibo iyo isfaham xumo. Gabadhii waxay si xanaaq leh u wacday hooyadeeda. Maanta waxay ahayd maalintii ay hooyadeeda guursanaysay mar kale, laakiin intii lagu guda jiray xafladda waxaa la soo bandhigay sawiradii hooyadeeda laga qaaday waqtigii ay ahayd atariishada filimada. Dhacdadan waxay lama filaan iyo naxdin ku noqotay dadkii oo dhan. Yami markiiba waxay dareentay xishood iyo ceeb weyn. Waxay soo xasuusatay maalmihii adkaa ee dugsiga ee ay bahdilka kala kulmi jirtay. Maadaama ay hooyadeeda lahayd xirfad ka duwan dadka kale, saaxiibadeed ayaa mar kasta ku qosli jiray. Markay xaqiiqada ku soo laabatay, Yami iyadoo xanaaqsan ayay xafladii ka tagtay. Dhanka kale, maamulaha hoteelka ayaa canaantay Jinjaak maadaama uu gabadhii ku dhacay. Maamuluhu wuxuu ku amray inuu si shakhsi ah raaligelin uu siiyo gabadhaas. Haddii uusan maqlin amarkaas, maamuluhu wuxuu u sheegi lahaa madaxweynaha shirkadda wax kasta oo dhacay. Jinjaak ma haysan waddo kale oo aan ka ahayn inuu u tago Yami. Xilligaas Yami waxay hadda dhammaysatay qubayska. Waxay rabtay inay cabto koob cabitaan ah si ay u nasato, laakiin si kedis ah ayay u simbiriiraxatay oo dhulka ay ugu dhacday. Jinjaak wuxuu ku celceliyey garaacista albaabka isagoo bannaanka jooga, laakiin cidna kama jawaabin. Waxaa intaas u dheeraa inuu maqlay qaylo iyo caawimaad weydiisasho ka dhex yaaraysa qolka gudihiisa. Sidaas darteed wuxuu u qaatay inay wax xun ku dhaceen gabadha. Markiiba albaabkii ayuu jabiyey oo qolka gudaha ayuu ugu soo cararay. Markii uu Jinjaak soo galay, Yami way ka xishootay xaaladda ay ku jirto, waxayna iska dhigtay qof miyir doorsoomay. Jinjaak aad ayuu uga naxay muuqaalkii horyaalay. Wuu ruxay, wuuna u yeeray, laakiin wax jawaab ah kama uusan helin. Markiiba wuxuu wacay ambalaaska si loola tacaalo. Kadib ayuu u qaaday si uu bannaanka ugu saaro. Markay indhaha kala qaaday, waxay aragtay isagoo xambaarsan oo si degdeg ah ula ordaya. Waxay rabtay inay u sheegto runta, laakiin ma ay garanayn sida ay ugu sharaxdo xaaladda. Muddo kooban kadib, ambalaaskii ayaa yimid. Dadkii ayaa ku soo ururay iyagoo si yaab leh u hadal haya. 3 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ayaa bilaabay inay baaraan, laakiin ma aysan helin wax calaamad ah oo muujinaya inay xanuunsanayso. Markaasay isku dayeen inay ka xoqaan cagta hoosteeda. Markaasay si kedis ah u laaday mid ka mid ah shaqaalihii. Jawigii oo dhan wuxuu noqday mid aad u dhib badan oo lagu kala xishooday. Qof kasta wuxuu garowsaday in tani ay ciyaar iyo iska dhigdhigis uun ahayd. Dadkii waxay bilaabeen inay Yami iyo Jinjaak ku fiiriyaan indho yaab leh. Jinjaak ayaa markaas Yami dib ugu celiyey hoteelkii. Wuxuu ku eedeeyey sababta ay runta ugu sheegi weyday bilowgii. Arrintaas darteed waxay sababtay isfaham xumo aan loo baahnayn. Laakiin iyaduna waxay dareemaysay murugo weyn. Waxay ka fikirtay shaqadeeda oo markii horeba aan u socon sidii ay rabtay. Hadda waxay kaloo qasab ku ahayd inay ka qayb gasho arooska hooyadeeda iyadoo u dulqaadanaysa sumcad xumada hooyadeeda haysata. Si kedis ah, murugo ayaa qalbigeeda ka buuxsantay. Jinjaak wuxuu u dulqaadan waayay inuu arko gabadha oo ooyeysa. Markaasuu iska siibay jaakadkii oo uu garabka u saaray. Wuxuu ku dhiirigeliyey maadaama ay halkan u timid inay ciyaarto, inaysan dib dambe uga fekerin waxyaabaha dhibka leh. Wuxuu u sheegay inay iska baashaasho uun. Waxay islahaayeen dib isuma arki doontaan. Laakiin arrimuhu inta badan waxay u dhacaan si aan la filayn. Jinjaak ayaa isagoo keligiisa ah gaarigiisii ku soo baxay si uu u soo nasto. Wuxuuna si lama filaan ah mar kale u arkay Yami. Markii ay aragtay isagoo wata gaariga raaxada ah ee aadka qaaliga u ah, waxay bilowday inay ku jeesjeesto. Waxay weydiisay
inuu soo xaday gaariga mid ka mid ah macaamiisha hoteelka. Isagu wuxuu markii hore damacsanaa inuu u sharaxo inuu yahay wiilka uu dhalay madaxweynaha hoteelka, laakiin iyadu waxay si khaldan u fahamtay inuu soo xaday gaariga wiilka uu dhalay madaxweynaha hoteelka. Midkoodna ma doonaynin inuu kan kale u tanaasulo. Isfaham xumadii ka dhaxaysayna aad ayay u sii korortay. Yami waxay ka cabsatay inay weydo baskii ugu dambeeyay, sidaas darteed waxay qasab kaga noqotay inay raacdo gaarigii Jinjaak. Ma ay ogeyn in safarkan kadib xiriirka ka dhaxeeya iyada iyo Jinjaak uusan ahaan doonin laba qof oo aan is aqoonin. Intii ay dhexda ku jireen gaarigii ayaa shidaalkii ka dhamaaday. Nasiib darro, Jinjaak wax lacag ah ma uusan wadanin. Wuxuu ku qasbay inuu gaariga si kumeel gaar ah u dhigo dhinaca wadada. Kadibna wuxuu gaariga ka soo qaatay dhalo cabitaan ah. Labadoodiiba waxay tageen xeebta. Way wada cabeen, sheeko ayaana dhex martay. Waxaa laga yaabaa in calafku uu qorsheeyay daqiiqadahan. Si kedis ah waxay xeebta ka heshay qadaadiic yar. Waxa gaarka ahaa waxay ahayd in lacagtaas la soo saaray isla sanadkii ay dhalatay. Jinjaak oo dhinac taagnaa ayaa dareemay wax la yaab leh. Inkasta oo ay gabadhu la kulantay nasiib darro intaas leeg, haddana waxay awooday inay si farxad leh u dhoola cadayso. Waxay aaminsanayd xataa haddii ay la kulanto boqol nasiib darro, haddii ay hal shay oo fiican hesho, inay u tixgelinayso maalin nasiib leh. Iyadoon la dareemin goorta uu waagu madoobaaday, waxaa laga yaabaa sakhraantii jirtay darteed inay bilaabeen inay isfiiriyaan. Jinjaak wuxuu arkay gabadhaas quruxda badan, wuuna ishayn waayay ilaa uu u soo dhowaaday. Markii uu degay ayuu dareemay inuu wax xun sameeyey, laakiin Yami ayaa si lama filaan ah ugu jawaabtay isku soo dhowaanshahaas. Kadib saqafkii gaariga ayaa xirmay. Habeen xamaasad leh ayay halkaas ku qaateen. Maalintii xigtay, Yami waxay ka kacday sakhraankii, waxaana ku soo dhacay wixii dhacay xalay. Aad ayay uga qoomamaysay, markaasay si degdeg ah dharkeedii u qaadatay. 3 sano ayaa si degdeg ah loo gudbay. Hadda Jinjaak wuxuu noqday agaasimaha shirkadda, Yamina waxay noqotay khabiir ku takhasustay nafaqada cuntada. Si lama filaan ah, waxay shaqo ka heshay isla shirkadda reer Jinjaak. Labadoodu waxay ahaayeen dad isku bartay si kedis ah. 3 sano ayaana ugu dambaysay. Laakiin maanta markii uu Jinjaak yimid shirkadda, wuxuu arkay weji uu garanayo haddana u muuqda mid ku cusub. Markii uu albaabkii wiishka xirmay, dareen ayaa ku soo kacay wadnihiisa. Jinjaak wuxuu soo xasuustay wixii dhacay 3 sano ka hor, laakiin wuxuu is yiri malaha indhahaaga ayaa xanuunsan, markaasuu iska dhaafay. Markii ay Yami xafiiska soo gashay, waxay xiratay dharkii shaqada. Waxay isbartay asxaabteeda cusub. Si kastaba ha ahaatee, madaxa kaaliyaasha ayaan soo dhaweynin imaatinka Yami. Xataa waxay u muuqatay mid ka xanaaqsan Yami. Qof ay wada shaqaynayeen ayaa rabtay inay jawiga qaboojiso, waxayna tiri waxay soo qaadaysaa baradho, iyadoo Yami banaanka u soo saartay. Gabadhaas ayaa si naxariis leh ugu sheegtay Yami in khabiirkii hore ee cuntada ay shaqada uga tagtay cadaadis kaga imaanayay madaxa kaaliyaasha cuntada awgeed. Waxa kale oo ay u sheegtay in agaasimaha shirkadda uu yahay nin aad u adag. Wuxuu isticmaalay saacadda jikada si uu u xadido waqtiga shirarka. Dad aad u yar ayaa u dulqaadan karay xanaaqiisa iyo habdhaqankiisa. Xilligaas Yami weli ma ay ogeyn in agaasimaha adag ee laga sheekaynayo uu yahay kii ay habeenka xamaasadda leh ku wada qaateen gaariga dhexdiisa. Wixii intaas ka dambeeyay marnaba dib isuma aynaan arkin. Markii uu Jinjaak xafiiska yimid, muuqaalkii gabadhii uu ku arkay wiishka ayaa maskaxdiisa ka bixi waayay. Inkasta oo uu shir ku jiray, haddana ma uu joojin karin ka fikirkeeda. Si kedis ah ayuu madax wareer u dareemay. Ugu dambayntiina kursigii ayuu ku dhex dhacay. Maadaama uu ahaa qof aan cuntada xilliga rasmiga ah ku cunin, jirkiisa ayaa bilaabay inuu calaamado daal iyo xanuun ah uu soo muujiyo. Xoghayaha la yidhaahdo Jack, isagoo raba inuu Jinjaak si degdeg ah u caafimaado, ayuu ugu hanjabay inuu shaqada ka tegayo. Sida uu sheegay xoghayaha, Jinjaak waa inuu 3 waqti ee cuntada u cunaa siday tahay, waayo ma uusan rabin inuu waayo kaaliye qaali ah. Jinjaak ma haysan waddo kale oo aan ka ahayn inuu amarkaas qaato. Xoghayihii ayaa u tegay Yami oo ahayd khabiirta nafaqada, wuxuuna ka codsaday inay iyadu mas'uul ka noqoto u diyaarinta 3 waqti ee cuntada ee agaasimaha shirkadda. Markii hore Yami way diiday codsigaas, laakiin si ay shaqadeeda u sii haysato, waxay ugu dambayn ku raacday si qasab ah. Si lama filaan ah, madaxa cuntada oo daba taagnaa ayaa maqlay sheekadaas. Markiiba aad ayay uga carootay. Shaqaalihii kale ee la shaqaynayayna ma ay fahmin sababta ay Yami u aqbashay shaqo intaas leeg oo dhib badan. Intaas kadib, kariyaha sare ayaa Yami cashar u dhigtay. Waxay u sheegtay Yami inaysan go'aano iyada u gaar ah qaadanin, waayo taasi dib uun bay u keenaysaa iyaga. Yami way istifaacday, laakiin kariyaha sare ma maqlin hadalkeeda. Kariyaha sare ayaa si cad ugu dhawaaqday in Yami ay tahay qofka u diyaarinaya 3 waqti ee cuntada agaasimaha. Maalinteedii ugu horeysay ee shaqada, Yami waxay la kulantay dhib intaas leeg, waxayna dareentay murugo weyn iyadoo aan garanayn waxay tidhaahdo. Si kastaba ha ahaatee, ma aysan ogeyn in agaasimuhu uu yahay gacalkeedii calafku isku qoray. Waqtigan Jinjaak wuxuu ogaaday in Yami ay ka shaqaynayso shirkadiisa. Wuxuu weli uurka ugu haayay xanaaq, sababtoo ah waxay kaga tagtay xeebta isagoo qaawan 3 sano ka hor. Arrintaas darteed, wuxuu noqday qofka ay ku sheekaystaan dumarka waayeelka ah ee u taagan arrimaha dadka kale, taas oo ka dhigtay inuu ceeb weyn dareemo. Yami waxay shaqada imaan jirtay xilli hore, waxayna bixi jirtay xilli dambe si ay u diyaariso cuntooyinka agaasimaha. Maalin maalmaha ka mid ah, Yami waxay aragtay cuntadii ay u diyaarisay agaasimaha oo ay xoghayad kale tuurayso. Si xanaaq leh ayay u weydiisay xoghayadii. Si lama filaan ah, waxaa goobta soo maray Jinjaak oo arkay waxa dhacaya. Yami waxay tidhi haddii uusan agaasimuhu cunayn cuntada qaaliga ah, ma aha inuu tuuro. Waxay kaloo weydiisay waxa uu rabo inuu cuno. Maadaama uusan Jinjaak rabin in Yami ay aragto, uma uusan dhawaanin goobta, wuxuuna u daayay inay iska tagto. Markaas ayay neef weyn ka soo baxday. Maalintii xigtay, xoghaya Jack ayaa u yimid Yami, wuxuuna siiyey liiska cuntooyinka uu agaasimuhu jecel yahay. Wuxuu u sheegay in agaasimuhu ka codsaday inay u kariso cunto nafaqo leh oo ku salaysan liiskan. Intaas oo keliya ma ahayn, xoghaya Jack wuxuu kaloo Yami u sheegay in wax kasta oo dhaca
aan loo ogolayn inay gasho xafiiska agaasimaha. Markii uu hadalkii dhameeyey, xoghaya Jack ayaa jeebka kala soo baxay kaarka ganacsiga. Markii ay Yami aragtay magaca ku qoran kaarka, aad ayay u wareertay. Xilligan Jack wuxuu go'aansaday inuu ka argoosto gabadha xanaaqii uu qabay 3 sano ka hor darteed. Sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu isticmaalo awoodiisa agaasiminimo si uu u dhibo Yami. Laga bilaabo maalintaas, Jack wuxuu raadinayay sabab kasta oo uu shaqada ugu adkeeyo Yami. Xataa hal xabad kama uusan dhadhamin cuntadii ay u keentay. Horay ayay u mashquulsanayd maalintii oo dhan, haddana waxay mar kasta hanjabaad kala kulmaysay agaasimaha. Maalin dhaweyd markii ay aragtay sawirka agaasimaha ee baraha bulshada, waxay dareentay in qofkan ay meel ku aragtay. Si kedis ah, muuqaalkii Jack ayaa maskaxdeeda ku soo dhacay. Waxay istiri suurtagal ma aha in waxan oo iska hor yimaad ah ay dhacaan, markaasay iska indha tirtay. Intaysan Yami weli la tacaalaysay dhibka agaasimaha, waxay dhib kale kala kulantay jikada shaqaalaha. Saaxiibadeedii ay wada shaqaynayeen ayaa dhaliilay cuntadii ay karisay. Xataa waxay u soo qoreen waraaqo qarsoodi ah. Waxay ku dhaheen cuntadaadu xataa ma aha mid la cuni karo. Cuntada kaliya ee ay haysatay waxay ahayd baasto madow iyo qudaar la shiilay. Qof ay wada shaqaynayeen ayaa si jees-jeesa sheegay in shaqada khabiirka nafaqada ee halkan ay u muuqato mid aad u fudud oo raaxo ah. Hadalkaas kadib, Yami aad ayay u niyad jabtay. Isla markaas, xoghaya Jack ayaa yimid, wuxuuna ku wargeliyay Yami inay mar kale diyaariso cuntooyinkii agaasimaha. Naxdintii isdabajooga ahayd waxay ka dhigtay Yami qof quus taagan. Markaasay u tagtay saaxiibadeedii ugu dhoweyd si ay ugu cabaado. Laakiin si lama filaan ah ayay fariintii cabashada ahayd ugu dirtay agaasimaha shirkadda halkii ay saaxiibteed ugu diri lahayd. Markii ay Yami ogaatay inay khalad weyn samaysay, ayay ku carartay xafiiskii agaasimaha. Markay albaabkii riixday, ayay si xishood leh raaligelin kaga siisay. Jack waqtigan ayuu muddo dheer sugayay. Si tartiib ah ayuu u soo jeestay, markaasuu fiiriyey. Yami aad ayay u yaabtay ilaa ay gacanta saartay afkeeda. Wejigan ayaa maskaxdeeda ku soo laalaabtay marar badan 3 sano ee la soo dhaafay. Maanta wuxuu mar kale hor taagan yahay indhaheeda. Way rumaysan weyday. Waxay isku dayday inay isdejiso. Raaligelin ayay bixisay, kadibna way soo jeesatay si ay u baxdo. Xataa markii ay shaqadii dhamaatay, weli way isdejin karin weyday. Tan iyo bilowgii ilaa dhammaadkii, weli ma ay rumaysan karin in agaasimuhu uu yahay ninkii ay 3 sano ka hor kulmeen. Markii uu Jack gaariga ka soo degay, Yami waxay isku dayday inay cararto, laakiin wuu qabtay. Wuxuu ku yidhi waxba isma aydan bedelin. Isagu wuxuu u muuqday mid aad uga qurux badan sidii hore. Ma ay garanayn waxay ugu jawaabto, inkasta oo ay maskaxdeeda jawaabo badan ku jireen. Ugu dambayntii waxay ku tidhi kuma garanayo. Markay hadalkaas tidhi, ayaa si kedis ah hingo u qabatay. Kadibna waxay aragtay isagoo si tartiib ah ugu soo dhawaanaya. Aad ayay u wareertay, markaasay go'aansatay inay cararto. Isaguna wuxuu fiirinayay dhabarkeeda iyadoo cararaysa, wuxuuna dareemay xanaaq iyo dhoola cadayn isku qasan. Markay gurigii ku soo laabatay, ayay dhulka fariisatay. Wixii dhacay 3 sano ka hor ayaa maskaxdeeda ku soo dhacay. Markaas ayay Yami garatay in Jack uusan ahayn nin ka shaqeeya albaabka hoteelka, balse uu ahaa wiilka uu dhalay gudoomiyaha. Xilligan Jack wuxuu dib u xasuusanayay wixii dhacay 3 sano ka hor. Wuxuu is yidhi Yamina waa inay i garatay. Markaasuu balan ku galay inuu cashar u dhigi doono. Sidaas ayayna u dhacday. Subaxdii xigtay, Yami waxay wargelin ka heshad xoghaya Jack oo u sheegay inay iyadu gacanteeda ku geyn doonto cuntada agaasimaha wixii hadda ka dambeeya. Si ay shaqadeeda u haysato, waxay isku dayday inay isdiirigeliso. Laakiin markii ay qolka gashay, waxay ku aragtay boor cad sawiro hoteelka ah. Markay aragtay sawirka musqusha, markiiba waxay soo xasuusatay halkii ay ku dhacday 3 sano ka hor. Isagu wuxuu si ula kac ah u weydiiyey inay aragtay wax aysan ahayn inay aragto. Iyadu waxay iska dhigtay qof aan arrintaas dan ka lahayn. Cuntadii ayay dhigtay, markiibana way isaga baxday. Si kastaba ha ahaatee, ma aysan ogeyn in xiriirka ka dhexeeya iyada iyo Jack uu hadda uun bilaabmay. Subaxdii xigtay, Jack wuxuu si ula kac ah u soo kaxaystay gaarigii uu watay 3 sano ka hor, kadibna wuxuu soo maray Yami agteeda si uu dareenkeeda u soo jiito. Intaas oo keliya ma aha, wuxuu kaloo soo helay dhalo cabitaan ah oo la mid ah tii ay ku cabeen habeenkaas xeebta. Markaasuu sawir ka qaaday oo uu u soo diray Yami. Wuxuu u sheegay inuu rabo cashada caawa inay noqoto mid ku habboon cabitaankaas. Si ay shaqadeeda u badbaadsato, Yami waxay ku qasbanaatay inay mar kale tagto xafiiska Jack. Markay gashay, si kedis ah ayaa muusig loo daaray. Yami aad ayay u wareertay. Kadibna waxay aragtay Jack oo soo bixinaya dhaladii cabitaanka ahayd. Wuxuu ku martiqaaday inay koob la cabto. Muuqaalkan wuxuu Yami soo xasuusiyey wixii dhacay 3 sano ka hor. Si ay martiqaadkiisa uga baxsato, waxay ku been sheegtay inaanay aqoonin sida loo cabo cabitaanka. Markaasay cuntadii dhigtay, iyadoo naxsan ayayna qolka ka carartay. Laakiin isagu ma uusan niyadsanayn inuu iska daayo. Qorshayaal kala duwan ayaa maskaxdiisa ku soo dhacay. Dhanka kale, Yami waxay dib ku sugaysay xilliga shaqada laga baxayo. Isla markii ay shirkadda ka soo baxdayba, waxay fariin ka heshay Jack. Wuxuu ku wargeliyey inuu caawa shaqo dheeraad ah qabanayo. Wuxuu ka codsaday inay casho u keento 10 habeenimo. Yami ma ay haysan fursad kale, waxayna ku laabatay jikada. Xilligaas, Jack wuxuu isleeyahay gabadhani waxay u dulqaadatay dhibka wax ka badan intii aan filayay. Markii ay saacadu 10 noqotay, Yami waxay garaacday albaabka xafiiska Jack. Si ay uga fogaato xishood iyo isfiirin, waxay cuntadii dhigtay miiska, waxayna isku dayday inay markiiba baxdo. Laakiin isagu wuxuu ugu yeeray magaceeda. Kadibna wuxuu jeebka kala soo baxay lacag badan, wuxuuna u dhiibay iyada. Wuxuu ku yidhi, tani waa lacagtii aan kaaga amaahday shidaalka 3 sano ka hor. Hadda ayaan kuugu soo celiyey iyada oo faa'iido xambaarsan. Iyadoo wareersan ayay madaxa ruuxday, waxayna ku tidhi, ma fahmayo waxaad ka hadlayso. Si kastaba ha ahaatee, isagu ma uusan ogolaanin inay baxdo. Si lama filaan ah ayuu xaggiisa ugu soo jiiday, wuxuuna bilaabay inuu dib u xasuusiyo kulankoodii ugu horreeyay ee 3 sano ka hor. Maadaama ay aad u xishoonaysay, weli waxay diiday inay qirato inay garanayso. Markii uu Jack arkay madax adeegeeda, isna wuu sii xanaaqay.
dhawaaqay. Wuxuu ku dhawaaqay inuusan ku kalsoonayn iyada. Wuxuu yidhi kuma kalsooni cuntada aad kariso, yaa garanaya waxaad ku soo dartay. Wuxuu ku amray inay iyadu marka hore dhadhamiso cuntada isaga hortiisa. Markaas uun baa loo ogolaan lahaa inay baxdo. Yami aad ayay u naxday. waxaa soo baxday inay si ula kac ah ugu soo dartay basbaas aad u badan cuntada baastada ah, waayo waxay rabtay inay isaga ka aargudato. Si kasta ha ahaatee, maadaama ay rabtay inay si degdeg ah uga baxdo xaaladan xishoodka badan, waxay cuntadii ka liqday hal xabad iyadoo wejigeeda dejinaysa. markiiba way soo jeesatay banaanka ayayna uga baxday xafiiska. maalintii xigtay, Yami waxay go'aansatay inay si dhaqso ah isaga fogeyso Jinjaak oo ay u aragtay nin dhib badan. sidaas darteed, waxay wacday madaxii waaxda iyadoo rajaynaysa in shaqada laga bedelo oo meel kale loo wareejiyo. laakiin si lama filaan ah, sheekadoodii waxaa maqlay xoghaye Jack. sidii ay Yami filaysayna wax walba way isbedeleen. warkii markiiba wuxuu gaaray dhegaha Jinjaak. wuxuu u yeeray Yami xafiiskiisana wuu ku canaantay. wuxuu ku yidhi waxaad tahay qof aan mas'uul ahayn. wuxuu intaas raaciyey markay dhibaato la kulanto inay garanayso keliya inay dhumato. Yami aad ayay u xanaaqday, waxayna weydiisay meel ay ku dhuumanayso. Jinjaak ayaa markaas weydiiyey, haddaba haddii aanad dhuumanayn, ma waxaad la kulantay wax kugu adag oo aad sheegi kari weyday? ugu dambayntii, Yami waxay go'aansatay inay qirato runta. waxay u sheegtay wax kasta oo ka dhacay gaariga dhexdiisa, xeebta iyo hoteelkaba. waxay ku tidhi 3 sano ka hor wixii dhacay, wax walba qalbigayga ayaan ku hayaa. markii uu arkay sida ay Yami u kacsan tahay, Jinjaak wuxuu damcay inuu codka hoos u dhigo si uu u qaboojiyo. laakiin si lama filaan ah, shucuurteedii ayaa sii korortay. waxay ku tidhi, anigu waxaan ahay khabiir nafaqada cuntada ah, adiguna waxaad tahay agaasime shirkad oo nafaqadiisu khalkhalsan tahay. waxay weydiisay sababta uu iska aamusi waayey oo uu iska cuni waayey cuntada ay u kariso. isna wuxuu weydiiyey su'aal maskaxdiisa ka guuxaysay 3 sano ee lasoo dhaafay. ma uusan fahmi karin sababta ay halkaas keligiisa uga tagtay 3 sano ka hor. waxay ugu jawaabtay in arrintaas ay ahayd hal habeen oo keliya, ayna ahayd dareen si kumeel gaar ah ugu dhashay sarqaan darteeda. waxay u sheegtay inay ahayd markii ugu horreysay ee ay wax caynkaas ah samayso, aadna ay u cabsatay. ugu dambayntiina waxay go'aansatay inay cararto. si kastaba ha ahaatee, mar kasta oo ay arrintaas ka fikirto 3 sano ee lasoo dhaafay, weli way ishayn weyday xamaasad darteed. markii uu hadalladaas maqlay, Jinjaak si weyn ayuu u wareeray. inkasta oo markii hore ay wax walba u dhaceen si kedis ah, haddana labadoodubana way joojin waayeen ka fikirka habeenkaas. maalintii xigtay, Yami waxay timid shirkadda, laakiin niyad uma hayn shaqada. waxay soo xasuusatay shalay markii ay aadka u kacsanayd inay shaqadii ka fadhiisatay oo ay is-casishay, haddana aad ayay uga qoomameynaysay. isla markaas, xoghaye Jack ayaa u keenay Yami sanduuqii cuntada. way furtay si ay u fiiriso. si lama filaan ah, waxay aragtay in sanduuqu uu maran yahay. Jinjaak wuxuu ka codsaday xoghaye Jack inuu u sheego Yami in bariisku uu aad u macaanaa. wuxuu sheegay inuu si gaar ah uu u jecel yahay hilibka iyo khudaarta. markay ku dartay in yar oo caraf ah, wuxuu dareemay inay aad u fiican tahay. wuxuu xataa yidhi cuntadani waxay ka mid tahay cuntooyinka ugu fiican adduunka. Yami waxay u aragtay arrintan wax aan la rumaysan karin. waxay fikirta oo ay fikirtaba way garan weyday waxa uu ninkan damacsan yahay. dhanka kale, gabar la xamanayay inay saaxiib latay Jinjaak ayaa shirkadda timid. Hayri waxay ahayd gabar caan ah oo wararka ka akhrisa telefishinada. inkasta oo ay ahayd gabadh qurux badan oo hodan ah, Jinjaak weligii dan iyo xiisayn midna uma muujinin. xataa markii uu arkay iyadoo shirkadda timi, habdhaqankiisu wuxuu ahaa mid aad u qalafsan oo aan deganayn. si kastaba ha ahaatee, Hayri waxay isku tuurtay gacmaha Jinjaak iyadoo aan waxba iska hubsan. iyadoo labadoodu ay saas isku hayaan, ayay Yami keeg la soo gashay xilli munaasib ah. markii ay aragtay muuqaalkaas, way xishootay waxayna isku dayday inay isaga baxdo. laakiin Jinjaak ayaa dib ugu yeeray. wuxuu mar kasta Hayri u muujinayay inay isaga tagto, laakiin way ka dhago adegtay. Yami waxay fiirisay Hayri oo aad u qurux badnayd. markiiba waxay hoos u fiirisay dharkeeda shaqada ee saliidda iyo wasakhda leh. aad ayay u xishootay. keegii ayay dhigtay si degdeg ah ayayna meeshii uga baxday. ilaa fiidkii markii shaqada laga baxay, Yami weli maskaxdeedu ma deganayn. waxay sawiranaysay muuqaalkii dhawaa ee dhex maray Hayri iyo Jinjaak, laakiin ma aysan ogeyn in wax kasta ay yihiin qadar alle qoray. xilligan waxaa fariin u soo dirtay hooyadeeda. si degdeg ah ayay guriga ugu laabatay. markii ay tagtay, waxay ogaatay in hooyadeeda ay la timid walaalkeeda oo 3 sano jir ah. waxaa intaas u dheeraa in hooyadeeda ay rabeen inay guriga kula noolaadaan maalmo kooban. Yami arrintaas ma jeclaysan, laakiin ma ay haysan waddo ay ku diido. waxay u soo baxday banaanka si ay isku soo qaboojiso. markaasay soo xasuusatay maalmihii dugsiga. xilligaas, hooyadeeda waxay jili jirtay filimada, taas oo sababtay in saaxiibadeeda ay ku jeesjeesaan oo ay dhibaateeyaan. markay intaas soo xasuusatay, Yami aad ayay u calool xumaatay. laakiin dhibkii halkaas kuma joogsanin. maalintii xigtay, markii ay shirkadda timid, waxaa u yeertay Hayri. Hayri waxay Yami siisay 2 sanduuq. Yami iyadoo wareersan ayay jikada tagtay. markaasay ogaatay in sanduuqyada dhexdiisa ay ku jiraan waxyaabo cunto lagu karsado oo ay Hayri si gaar ah u soo dooratay. Hayri waxay ku tiri, laga bilaabo maanta waa inaad waxyaabahan u isticmaashaa cuntada aad u karinayso Jinjaak. waxay kaloo si ula kac ah ugu tidhi, waa inaad si fiican u daryeeshaa Jinjaak. intaas oo keliya ma aha, Hayri waxay kaloo soo iibisay weelal qaali ah. waxayna Yami ka codsatay inay weelashan u isticmaasho cuntada agaasimaha maalin kasta. waxaa intaas dheeraa, markay cuntada diyaariso, waa inay sawir ka qaado oo ay u soo dirto Hayri si ay u hubiso. markii ay aragtay in Yami ay ka xanaaqsan tahay, Hayri waxay tidhi, anigu waxaan ahay xaaska mustaqbalka ee Jinjaak. si kedis ah, Jinjaak ayaa yimid oo u soo dhawaaqay Yami, isagoo yidhi, cidna ma dhibi karto gabadhan. markii uu hadalkii dhameeyey, Yami indhaha ayay la raacday isagoo jiidaya oo meeshii ka kaxaynaya. Hayri waxay ku hartay meeshii iyadoo xanaaq la gubanaysa. waxay isku xirtay gacmaha, waxayna ballan qaaday inay Yami kashifi doonto oo ay duleyn doonto. waqtigan, Jinjaak wuxuu
wuxuu Yaami geeyey maqaayad. Waxay weydiisay sababta uu halkan u keenay, laakiin wuxuu u sheegay inay iyadu ka fikirto. Wuxuu ku yiri maxay tahay sababta nin mashquul badan oo agaasime ah oo halkan ku keeni lahaa xilli shaqo. Markii ay taas maqashay si qarsoodi ah ayay u faraxday, laakiin intaanay laba ilbiriqsi ku riyoonin xaqiiqadii ayaa dib loogu soo celiyey. Wuxuu u sheegay inuu aad u jecel yahay cuntada maqaayadan, sidaas darteedna uu halkan u keenay si ay wax uga barato sida loo kariyo. Wuxuu rajaynayay inaanay si khaldan u fahmin ujeedadiisa. Yaami waxay weydiisay in gabadhii dhowaan ay wada joogeen ee Hayri ay saaxiib la tahay iyo in kale. Jinjaak wuxuu ugu jawaabay in Hayri ay tahay gabar uu dhalay macalinkiisii. Wuxuu ku adkeeyey inaanay isku lamaanayn isaga iyo gabadhaas. Markii ay Yaami maqashay inkiraadda Jinjaak, waxay dareentay farxad yar, laakiin Jinjaak markiiba wuxuu burburiyey riyadeedii. Wuxuu ku adkeeyey inay isku barteen kaliya shilkii dhacay 3 sano ka hor. Wuxuu kaloo u sheegay inaanay wax rajo ah ka filanin isaga. Yaami aad ayay u walwaashay ilaa ay hingo qabatay. Markay rabtay inay baxdo, waxay ku dhawaatay inay ku dhacdo albaabka dhalada ah. Nasiib wanaag, Jinjaak ayaa si degdeg ah gacmihiisa ugu soo qabtay. Jirkoodii ayaa si lama filaan ah isu taabtay. Jawigii oo dhan wuxuu noqday mid laga xishoodo. Xilligii ay indhahoodu isku dhaceen, Yaami aad ayay u naxday ilaa ay hingidii ku soo laabatay. Jinjaak isna wuxuu dareemay xishood, markaasuu gacanteeda degdeg u sii daayay, kadibna wuu canaantay. Ma aysan ogeyn inuu isagu weli hayo sir weyn oo ay iyadu leedahay. 3 sano ka hor wuxuu ka helay maradii ay kaga tagtay. Tan iyo markaas wuxuu ku hayay sanduuq muddo 3 sano ah. Mar kasta oo uu arko, wuxuu xasuusan jiray wixii dhacay 3 sano ka hor, inkasta oo ay ahayd dhammaadkii toddobaadka. Jinjaak wuxuu u soo wacay Yaami wuxuuna sheegay inuusan cunin wax cunto ah maalintii oo dhan. Sidaas darteed wuxuu ka codsaday inay degdeg u soo diyaariso cunto. Yaami waxay rabtay inay diido, laakiin si ay shaqada u haysato, waxay ku qasbanaatay inay ogolaato. Si kastaba ha ahaatee, ma ay ogeyn in nus saac ka hor uu la kulmay macaamiil muhiim ah, uuna hore u soo cunay cunto Shiinays ah. Wuxuu xeeladan u isticmaalay sababtoo ah wuxuu rabay inuu arko iyada. Xilligaas Yaami waxay ilaalinaysay walaalkeeda ka yar maadaama hooyadeeda ay maqnayd. Maadaama aanay wado kale u furnayn, Yaami waxay walaalkeeda u kaxaysay gurigii Jinjaak. Isla markii ay albaabka gashay, waxay ku aragtay fadhiga bustayaal iyo barkimo. Waxay isweydiisay in dadka hodanka ahi ay u nool yihiin si fudud oo caynkaas ah. Markaasay qolalkii soo dhex martay. Markaas bay u caddaatay in guriga Jinjaak uu maran yahay, xataa sariir mataalo guriga dhexdiisa. Ma ay haysanin waqti ay wax badan kaga fikirto. Markaasay walaalkeeda meel fadhiisisay, jikadiina u gashay inay cunto u kariso. Laakiin intaanay cuntadii dhammaystirin ayaa dhawaaq weyn la maqlay. Way naxday, waxayna u carartay xagga sare. Markaasay aragtay in walaalkeeda uu miiska Jinjaak ka soo riday sanduuqii sirta ahaa. Waxay damcay inay hubiso in waxyeelo gaartay waxa gudaha ku jira, laakiin ugu dambayntii kuma ay dhiiranin inay furto. Sanduuqii ayay meel fog dhigtay, kadibna waxay walaalkeeda kala baxday gurigii. Markii uu Jinjaak soo laabtay, wuxuu ogaaday in Yaami ay baxday. Wuxuu fiiriyey sanduuqii cuntada iyo warqadii yareyd ee miiska saarnayd. Markaasuu dareemay cidlo iyo inay wax ka maqan yihiin. Isagoo raba inuu kor u kaco, ayuu si lama filaan ah ayuu u arkay jaakadiisii. Tani waxay ahayd jaakadii ay Yaami qaadatay 3 sano ka hor. Hadda way u soo celisay. Isagoo murugaysan ayuu qolka akhriska ku noqday, laakiin ma uusan arkin wax la yaab leh oo isbeddel ku yimid. Markii uu dharkii beddeshay ayuu hoos u soo degay. Cuntadii ayuu keligii cunay, isagoo fiirinaya jaakadii ay Yaami u soo celisay, taas oo ka dhigtay inuu sii murugoodo. Maalintii xigtay, Yaami waxay u samaysay Jinjaak cunto si qurux badan loo soo habeeyey. Si lama filaan ah ayuu haddana ku canaantay. Wuxuu weydiiyey, ma carruur baad ii malaysay? Waxay isku dayday inay u sharaxdo inaanay sidaas ula jeedin, laakiin isagu wuxuu sii weydiiyey inay rabto inay shukaansato. Markiiba dhowr ilbiriqsi ayay dhaqaaqi weyday iyadoo naxsan. Kadibna waxay u sheegtay inaanay wax ujeedo kale ah lahayn, ayna rajaynayso inaanu wax kale u malaynin. Markii uu arkay walwalkeeda, ayuu sii dhuftay oo uu ku sii jeesjeesay sababta ay been sheegayso. Yaami markiiba way argagaxday. Waxay islahayd malaha wuxuu ogaaday in sanduuqiisii sirta ahaa uu jabay. Waxay ku been sheegtay inay jaakadka ay u muuqatay mid qaali ah, sidaas darteedna ay ka quusatay inay iska tuurto. Sheekadoodii ayaa mar kale ku dhammaatay isfaham xumo iyo jawi xun. Dhanka kale, Hayri ayaa iyaduna cunto u karisay aabbihii Jinjaak si ay u siiso. Markii uu arkay inay tahay gabar wax walba ku filan, wuxuu fursadan u isticmaalay inuu Jinjaak xafiiska ugu yeero. Wuxuu ku adkeeyey Jinjaak inuu degdeg u guursado Hayri si uu dhowaan u arko canug uu awoowe u yahay. Jinjaak wuu ku caajisay hadalkaas, wax dambena ma uusan sii dhegaysan, wuuna iska baxay. Isla markaas wuxuu Hayri uga digay inaanay marnaba hortiisa soo istaagin. Laakiin Hayri ayaa weydiisay in Jinjaak uu dareen u hayo gabadha reer miyiga ah ee u keenta cuntada. Kadib waxay qabatay shaarkiisa, madaxana waxay saartay laabtiisa. Waxayna ku tidhi iyadoo u hanjabaysa inay sii daryeeli doonto. Waxay ka codsatay inaanu mar dambe si khaldan ula dhaqmin. Intaas kadib, Hayri waxay u tagtay Yaami si ay ula hadasho. Hayri waxay uga digtay Yaami inaanay wax ujeedo kale ah ka lahaanin Jinjaak cuntada mooye. Waxayna u sheegtay inaanay xataa ku riyoonin wax dhex mari kara iyada iyo Jinjaak. Yaami waxay u muuqatay mid cabsatay oo istaagi weyday maadaama ay Hayri tahay qof awood iyo kalsooni badan muujinaysa. Xataa markay shaqaynayso, weli walwal ayaa hayay. Waxay ka cabsanaysay in Jinjaak uu ogaado in sanduuqii uu ka jabay. Sida caadada ah, waxaad ka cabsato uun baa kugu dhaca. Markii uu Jinjaak gurigii ku laabtay, wuxuu ogaaday in sanduuqii miiska saarnaa uu qof taabtay. Jinjaak wuxuu soo xasuustay in Yaami ay maanta cuntada u samaysay si ay isaga raalli uga dhigto. Markaas ayuu is yiri malaha waxay aragtay waxa sanduuqa gudihiisa ku jira. Si kedis ah ayuu dareen xishood ah jirkiisa oo dhan ku baahay. Maalintii xigtay waxa uu gabi ahaanba awoodi waayay inuu xoogga saaro shirki uu ku jiray. Wuxuu xataa sawiranayay iyadoo sanduuqa furaysa oo eegaysa waxa ku dhex jira. Isagoo isku dayaya inuu iska saaro xishoodkaas, ayuu miiskii gacanta ku dhuftay. Dadkii oo dhan ayaa naxay oo
argagaxay. Xilligaas Yami waxay u malaysay in Jinjaak uu mashquul badan yahay oo uu ilaaway inuu u yeero. Sidaas darteed waxay go'aansatay inay iyadu cunto u geyso xoghaye Jack, laakiin Jinjaak ayaa isagoo xanaaqsan yiri ma rabo inaan wax cuno. Xoghaye Jack ayaa u sheegay in khabiirka nafaqadu ay si kastaba u soo diyaarisay cuntada. Markii uu Jinjaak sanduuqii furay, markiiba waxaa soo jiidatay warqad yar oo ku dhex jirtay. Warqadda waxaa ku qornayd xukun odhanaya wax kasta waa isfaham xumo. Waqtigan Jinjaak aad ayuu uga sii xanaaqay sidii hore. Inkasta oo uu muddo guriga ka maqnaa, haddana xanaaqiya ma uusan qaboobin. Wuxuu xaqiiqsaday in Yami ay khasab tahay inay aragtay wixii sanduuqa ku jiray. Markii uu damcay inuu tirtiro cadeymaha, ayuu si lama filaan ah u arkay caruusad taala kabarka hoostiisa. Yami oo hadda guriga ku soo laabatay ayaa heshay telefoon. Isla markaas kadib Jinjaak ayaa ka soo muuqday iridda guriga Yami. Way yaabtay, wayna rumaysan weyday inuu gurigeeda yimid. Jinjaak ayaa caruusadii soo bixiyey, wuxuuna weydiiyey sababta ay qolkiisa u dhex taalay. Iyadu waxay u malaysay inuu ogaaday sanduuqii jabay. Markaasay si degdeg ah ugu dhiibtay bac ay sidatay. Waxay u sharaxday inay si kedis ah uga soo dhacday oo uu ka jabay. Waxay u sheegtay inay hadda soo iisay sanduuq la mid ah kii hore si ay ugu raali geliso. Waxay rajaynaysay inuu ka dego xanaaqiisa, laakiin isagu waxa uu ka walwalsanaa uun inay sanduuqa dhabta ah furtay iyo in kale. Si toos ah ugama ay jawaabin, laakiin waxay tidhi waan qiyaasi karaa weynida shayga ku dhex jira sanduuqa. Isfaham xumadii u dhaxaysay labadooda ayaa sii qoto dheeraatay. Jinjaak wuxuu hubaal u qaatay in Yami ay aragtay shaygiisii sirta ahaa, halka Yami ay u malaynaysay in shayga sanduuqa ku jira uu yahay dahab qaali ah. Labadoodu waxay ku dhex jireen dood iyagoon isfahmaynin. Jinjaak wuxuu is yiri Yami si ula kac ah ayay igu jeesjeesaysaa, markaasuu si lama filaan ah u canaantay. Si lama filaan ah, doodii u dhaxaysay labadooda ayaa soo jiidatay dareenka nin guriga gudihiisa ku jiray. Ninkaas wuxuu u qaatay in Yami la dhibaayo, markaasuu si degdeg ah banaanka ugu soo baxay si uu u soo dhex galo. Markii uu Jinjaak arkay nin aan la garanayn oo meeshaas ka soo baxay, ayuu Yami weydiiyey qofka uu ninkani yahay. Ka hor intaysan Yami jawaabin, ayuu ninkii laabta geliyey. Ninkaas xataa wuxuu ogaa in Jinjaak uu yahay agaasimaha Yami. Wuxuu kaloo yiri haddii ay wax jiraan, waa inay sugaan ilaa ay shirkadda ka tagaan si halkaas loogu xalliyo. Kadibna isagoo aan xishoonayn ayuu Yami guriga dhex geeyey. Jinjaak isagoo fiirinaya dhabarka labada qof ee sii galaya guriga, ayuu meeshii iska istaagay isagoo yaaban. Isagoo guriga u sii socda, wuxuu maskaxda ku soo celcelinayay muuqaalkii labadooda ee laabta isgelinaya. Wuxuu is yiri Yami malaha waxay leedahay saaxiib, taas ayaana ka dhigtay inuu ka sii xumaado sidii hore. Dhanka kale, Yami ayaa weydiisay ninkii sababta uu hadda ula dhaqmay sidii qof ay isjecel yihiin. Ninka oo magaciisu yahay Hayaan wuxuu markii hore damacsanaa inuu fursadan uga faa'iidaysto inuu u qirto jacaylka uu hayo Yami, laakiin ugu dambayntii kuma uusan dhiiranin inuu hadalkaasi yiraahdo. Wuxuu kaloo u sheegay in haddii qof uu hanjabo ay iska oran karto saaxiib ayaan leeyahay. Wuxuu u sheegay inuu diyaar u yahay inuu matalo doorka saaxiibkeeda. Iyadu waxay u qaadatay inuu la kaftamayo, markaasay wax weyn u arki weyday. Dhanka kale, Jinjaak wuxuu seexan waayay xanaaq uu qabo ninka la tartamaya ee soo dhex galay jacaylkiisa. Yamina dhankeeda waxay maskaxda ku celcelinaysay maalintii ugu horeysay ee ay Jinjaak kulmeen. Ilaa subaxdii dambe maskaxdeedu ma deganayn, laakiin haddana waxay ku qasbanayd inay u kariso cuntada Jinjaak xilligii loogu talagalay. Ugu dambayntii way isdhiirigelisay, waxayna garaacday albaabka. Cuntadii ay karisay ayay gudaha la gashay. Si lama filaan ah, isla markii ay gashayba, Jinjaak wuxuu soo bixiyey caruusadii shalay, wuuna u dhiibay. Yamina waxay fursad u heshay inay siiso Jinjaak sanduuq cusub, laakiin isagoo aad u xanaaqsan ayuu ku yiri si degdeg ah meesha uga fogee sanduuqaas. Aad ayay u walwaashay ilaa ay hingo qabatay. Markaasuu istaagay oo uu yiri waxaad ku fiican inaadan arrintan mar dambe horteeda ku soo hadal qaadin. Inkasta oo aanay si fiican u fahmin waxa uu ka xanaaqsan yahay, haddana way ogolaatay. Markiiba sanduuqii way iska qarisay, waxayna isu diyaarisay inay baxdo. Laakiin Jinjaak ayaa dib ugu yeeray. Wuxuu weydiiyey ninkii shalay la joogay. Yami waxay xasuusatay wixii uu Hayaan u sheegay, markaasay si toos ah u tiri taasi waa arrin ii gaar ah. Sidaas darteed, Jinjaak xaq uma laha inuu wax ka weydiiyo. Markaas ayuu Jinjaak hadalkiisii xumeeyey. Wuxuu ku canaantay inaanay aqoonin sida ragga loo doorto. Wuxuu yiri markii ugu horeysay ee aan arkayba waxaan gartay in ninkaasi uu yahay nin ciyaal suuq ah. Yami ayaa difaacday Hayaan, waxayna tiri waa nin qurux badan. Waxay tiri waa nin dadaal badan. Intaas oo keliya ma aha, waxay kaloo ku dartay inuu yahay nin aqoon leh oo xishood badan. Waxay kaloo ku dhawaaqday inuu gebi ahaanba ka duwan yahay qof aan waxba haynin oo aan qurux ku faanaynin. Isla markii ay hadalkii dhamaysay, Jinjaak waxaa ku dhashay masayr xoogan. Markii ay Yami baxdayna, Jinjaak weli wuu iska hadlayay isagoo xanaaqsan. Wuxuu fiiriyey sanduuqii cuntada ee ay u keentay, isagoo weli dhaliilaya. Laakiin wuu ishayn waayey, markaasuu sawir ka qaatay cuntadii si uu xasuus ugu haysto. Muddo yar kadib waxaa la gaaray xilligii shaqada laga baxayay. Jinjaak ayaa arkay xoghaye Jack oo sita buug, markaasuu si xog doon ah u weydiiyey buugga. Wuxuu la yaabay markii uu ogaaday in ninkii uu u haysan jiray inuu ciyaal suuq yahay ee Hayaan uu yahay qoraaga buuggaas. Markiiba wuxuu amar ku siiyey xoghaye Jack inuu Yami u sheego inay caawa shaqo dheeraad ah joogayso uuna rabo cunto kale. Yami aad ayay u niyad jabtay, laakiin waxay daawatay saaxiibadeedii kale oo shaqada ka baxaya, iyaduna ay khasab ku tahay inay sii joogto. Intii ay jikada ku jirtay, waxay karisay cashadii, kadibna waxay u geysay Jinjaak. Isna wuxuu ku yiri waad dadaashay, hadda waad iska tagi kartaa. Markii ay xafiiskeeda ku laabatay, waxa u soo dhacday fariin. Waxay aragtay in Hayaan uu ku martiqaadayo inay isla soo lugeeyaan. Si lama filaan ah, Jinjaak ayaa isla daqiiqadaas fariin kale u soo diray, isagoo ka cabanaya in cuntadii maanta ay yariyay. Wuxuu ka codsaday inay bariis kale u kariso. Yami waxay ku qasbanaatay inay jikada ku laabato oo ay cunto cusub u kariso Jinjaak. Maadaama habeenkii la gaaray, Yami waxay wacday Hayaan si ay uga raali geliso inaanay iman
imaan karin, laakiin hayaan wuxuu u sheegay inuu joogo iridda shirkadda oo uu iyada sugaayo. Xilligan Yami ma aysan ogeyn in Jinjaak uu dhagaysanayay wicitaankooda bilow ilaa dhammaad. Jinjaak ayaa si tartiib ah ugu soo dhawaaday Yami, iyaduna waxay qalbiga ku haysay cabashooyin badan oo ay isaga u qabto. Inkasta oo ay rabtay inay wax u sheegto, haddana ma aysan awoodin inay kor u dhawaaqdo. Waxay ku qasbanaatay inay dhoola cadayso, markaasay jikada gashay. Waxay hoos u tiri, ninkan calooshiisa waxaa degan tuug cuntada ka dhameeyey. Si kasta ha ahaatee, gacmaheedu waxay weli u karinayeen maraq lafo ah oo nafaqo leh. Markii ay cuntadii dhammaysay ayay soo bixisay. Markay damcay inay dheriga miiska saarto, ayay soo xasuusatay inay soo ilowday maradii lagu qaban lahaa dheriga kulul. Laakiin Jinjaak ayaa mar hore u sii diyaariyey wax ay dheriga saarto. Wuxuu soo qaatay buuggii hayaan si loogu isticmaalo marada dheriga laga qabto. Yami aad ayay u wareertay, waxayna weydiisay, buuggani miyaanu ahayn kii hayaan? Jinjaak wuxuu ku marmarsiyooday inuu yahay buugga xoghayihiisa, uuna yahay mid weyn oo ku habboon in dheriga lagu qabto. Intaas oo keliya ma aha, Jinjaak wuxuu kaloo ka codsaday Yami inay la fadhiisato oo ay la cunto. Inkasta oo aanay rabin, haddana waxay ku qasbanaatay inay amarka madaxda raacdo. Markii uu arkay Yami oo saacadeeda fiirfiirinaysa, Jinjaak wuxuu si ula kac ah u weydiiyey, ma waxaad rabtaa inaad ballan shukaansi ah aad aado, mise runta ayaa ah inaad ballan lahayd oo aad shaqada dhexda kaga jirtay? Markii ay hadalkaas maqashay, Yami waxay garatay in Jinjaak uu habeenkaas oo dhan dhibayay uun si uu u xanibo. Waxay weydiisay sababta uu hal habeen 3 jeer wax u cunay. Ma waxay ahayd uun inuu buugga hayaan uu liido? Inkasta oo qorshihiisii la ogaaday, haddana wuxuu ku adkaystay inaanu ahayn qof waqti badan haysta oo iska ciyaaraya. Kadibna wuxuu yiri, wax baan rabaa inaan xaqiijiyo. Yami waxay dareentay wareer iyo yaab. Intaanay weli fahmin ayuu Jinjaak aad ugu soo dhawaaday. Yami waxay dareentay walwal iyo naxdin, markiiba hingo ayaa qabatay. Waxay islahayd hingadan marmarsiyo ka dhigo oo meesha kaga carar, laakiin isaga ayaa dib u soo jiiday. Wuxuu weydiiyey sababta ay mar kasta oo ay isaga la joogto u walwasho ee ay hingo u qabato. Wuxuu weydiiyey, ma waxaad dareen u haysaa shukaansigayga? Markii ay intaas maqashay, Yami si lama filaan ah ayay isaga riixday Jinjaak. Waxayna markiiba soo xasuusatay wixii dhex maray 3 sano ka hor. Waxay been ka sheegtay inay hingada u qabato keliya marka ay soo xasuusato wixii hore ee dhacay, taas oo ka dhigaysa mid aad u murugaysan. Markaasay iyadoo argagaxsan goobtii ka carartay. Isla markii ay Yami guriga tagtay, waxay aragtay hooyadeeda oo daawanaysa filimada ay iyadu jishay markii ay yarayd. Yami ma ay fahmi karin sababta ay hooyadeeda arrintaas ugu faanto. Markii ay hooyadeeda isqabteen kadib, Yami waxay u soo baxday balakoonka, halkaas oo uu hayaan ku arkay iyadoo keligeed cabitaan cabaysa. Markaasuu u yimid, wuxuu ku yiri, malaha hooyada wax dhib ah oo aanay sheegi karin ayaa haysta, laakiin Yami ma aysan aaminsanayn taas. Tan iyo carruurnimadii, Yami waxay la kulantay naxdin weyn markii ay ogaatay shaqada gaarka ah ee hooyadeed. Xaaladdu waxay sii xumaatay markii ay saaxiibadeeda ogaadeen runtaas. Wixii intaas ka dambeeyey, waxay noqotay qof markasta dugsiga lagu dhibo loona xoog sheegto. Tan iyo waqtigaas, kuma ay dhiiran inay u noolaato sidii ay jeceshahay, ha noqoto xiriirada jacaylka ama habka xirashada dharka. Haddii aanay arooska hooyadeeda jiri lahayn, waxba kama dhaceen gaariga dhexdiisa iyada iyo Jinjaak. Markay taas ka fikirtay, Yami aad ayay uga qoomamaysay. Waxay u dan sheegatay hayaan iyadoo u sheegaysa wax kasta oo dhacay. Isagu wuxuu u qaatay inay sarqaansan tahay oo ay hadallo aan macno lahayn ku hadlayso, markaasuu wax weyn u arki waayey. Xilligan Jinjaak gudhiisa ayaa dhameeyey shaqadiisii. Wuxuu soo xasuustay hadalkii Yami ee ahaa inay hingadu u qabato sababtoo ah waxay rabtaa inay xasuusta hore iska ilowdo. Xanaaq ayaa ku kacay, markaasuu soo qaatay sanduuqii ay ku jireen wixii ay Yami kaga tagtay, wuxuuna ku tuuray qashinka. Si kastaba ha ahaatee, wuu ishayn waayey oo dib ayuu qashinkii uga soo dhex bixiyey. Kadibna wuxuu dib ugu celiyey armaajada. Subaxdii xigtay ee shirkadda, Jinjaak wuxuu si kedis ah u maqlay Yami oo wacaysa hayaan. Waxay weydiinaysay inuu xalay gurigii si nabad ah ku tagay. Jinjaak wuxuu markaas gartay in labadoodu ay xalay wada joogeen. Jinjaak markiiba masayr xooggan ayaa ku dhashay. Jinjaak wuxuu u yeeray xoghaye Jack, wuxuuna ku amray inuu u yimid Yami si ay amaro u qaadato. Wuxuu u sheegay in maanta ay qasab tahay inay u diyaariso cunto koox ka kooban 10 qof. Intaas oo keliya ma aha, waxay kaloo ahayd inay u diyaariso 20 sanduuq oo cunto ah shaqaalaha fiidkii. Yami waxay isweydiisay sababta aan cunto banaanka ah looga soo dalban karin tiradan intaas leh, laakiin xoghaye Jack ayaa u sheegay inaan loo ogolayn inay cunto banaanka ah dalbato. Markiiba waxay dareentay quus. Waxay gashay jikada iyadoo aad u mashquul u ah diyaarinta wax kasta. Markii ay Yami cuntadii keentay, waxay halkaas ku aragtay Hayri. Shaqaalihii ayaa xataa xamanayay in Hayri iyo Jinjaak ay ishukaansanayaan. Hayri waxay rabtay inay ceebayso Yami, markaasay dalbatay cuntooyin aad u qaali ah oo banaanka laga keenay. Sidii la filayeyna, qof kasta wuxuu doortay cuntooyinkii qaaliga ahaa. Yami waxay dareentay niyad jab weyn markii ay aragtay in aanay jirin cid danaynaysa cuntadii ay soo karisay. Hayri waxay kaloo tiri in Jinjaak uu dadaal badan u galay sidii uu waqti ula qaadan lahaa. Sidaas darteed, inay tahay inay isaga ugu abaalguddo cunto iyo cabitaan wanaagsan. Yami markay intaas aragtay, iyadoo murugaysan ayay goobtii ka tagtay. Jinjaak ayaa u digay Hayri isagoo u sheegay inay si asluub leh u dhaqanto. Kadibna si degdeg ah ayuu uga daba orday Yami si uu raaligelin u siiyo. Laakiin Yami ayaa ku tiri, aniga ayaa ah qofka ay tahay inuu raaligelinta bixiyo. Waxay dareemaysay inay iyadu ka kharibtay Jinjaak qorshihii uu gabadha ku guursan lahaa. Waxaa soo baxday inay Yami u haysatay in sanduuqii yaraa ee ay jabisay uu ahaa hadiyad aroos oo uu Jinjaak gabadh u diyaariyey. Waxay islahayd maadaama ay qorshihiisii ka kharibtay, ayuu isaguna mar kasta u dhibayaa. Markay hadalkaas tiri, si degdeg ah ayay uga carartay. Markaas uun buu Jinjaak garowsaday in Yami aanay marnaba furin sanduuqaas. Yami waxay gashay musqusha si ay keligeed ugu soo ooyso. Si kasta ha ahaatee, ma aysan doonayn inay qirato dareenka jacayl ee ay u hayso Jinjaak. Xilligan waxaa soo wacay xoghaye
Jack wuxuuna u sheegay inay hadda timaado isbitaalka. Waxay weydiisay sababta ay isbitaalka u tegayso. Ma wax baa ku dhacay Jinjaak? Yami waxay ka walwashay in wax xun ay ku dhaceen Jinjaak, markaasay taxi degdeg u raacday si ay isbitaalka u tagto. Markii ay Yami gaartay, waxay aragtay Jinjaak oo faleebo loo suray. Walwalkeedii ayaa halkaas ku sii kordhay. Xoghaye Jack oo ag taagnaa ayaa u sharaxay in Jinjaak uu xaaladan ku galay sababtoo ah wuxuu cunay dhammaan cuntooyinkii ay Yami karisay. Wuxuu sheegay inuu xafiiska galay isagoo helay 2 boorso oo ay ka buuxaan cuntooyinkii ay Yami keentay. Isagoo ka cabsanaya inay Yami ka xumaato, ayuu dhammaantood hal mar wada cunay. Natiijadii waxay noqotay in calooshu istaagto, lana soo dhigo isbitaalka. Yami ayaa weydiisay Jinjaak sababta uu naftiisa ugu qasbay arrintaas. Wuxuu ugu jawaabay in markii u dambeysay ee uu xoghayadii kale ku yiri cuntada iska tuur, ay Yami aad uga xumaatay ilaa ay xafiiskiisa ugu soo gashay. Markii ay taasi maqashay, Yami aad ayay u wareertay. Si lama filaan ah, Jinjaak ayaa mawduucii bedelay. Wuxuu weydiiyey sababta ay maanta u firaaqaysan tahay ee ay u timid inay soo booqato. Wuxuu isweydiiyey miyaanay markan ballan la lahayn ninkii kale. Waxay ku adkaysatay inaanay saaxiib lahayn, ninkaasuna uu yahay saaxiibkeeda oo keliya. Waxay kaloo u sheegtay inaanay hal guri wada deganayn. Dabaqa koowaad wuxuu ahaa dukaankii Hayaan, dabaqa labaadna wuxuu ahaa gurigii ay Yami kiraysatay. Taas ayaana ahayd sababta ay maalin kasta isugu arki jireen. Waxay rajaynaysay inaanu Jinjaak si khaldan u fahmin xiriirkooda, laakiin wuxuu iska dhigay qof degan, wuxuuna u sharaxay inaanay wax xiriir ah la lahayn Hayri. Wuxuu kaloo u sheegay in qofka iska leh sanduuqa gurigiisa yaalla uu qof kale yahay. Intaanay Yami weydiin qofka iska leh sanduuqa, Jinjaak ayaa hurdo la tagtay, markaasay u kacday si ay bustaha ugu daboosho. Si lama filaan ah, xoghaye Jack oo albaabka banaankiisa taagnaa ayaa arkay muuqaalkaas oo dhan. Maalintii xigtay, xoghaye Jack ayaa u sheegay Jinjaak in Yami ay habeenkii oo dhan ag fadhiday oo ay ilaalinaysay. Wuxuu sheegay inaanay taxi raacin oo aanay guriga aadin ilaa habeen dambe. Jinjaak waxaa si kedis ah ugu soo dhacay sawir ah in Yami ay shalay aad ugu dhoweyd, laakiin markii uu ka fekeray, wuxuu is yiri malaha waxaas ma dhicin oo waa riyo. Isla markaas, Yami ayaa albaabka soo riixday oo gudaha u soo gashay. Waxay si gaar ah ugu soo karisay mushaari ku habboon dhadhankiisa. Isagoo raba inuu shakiga iska saaro, ayuu ka codsaday inay sii joogto. Kadibna wuxuu ka yimid gadaasheeda, wuxuu gacmaha gashaday dhexda. Wuxuu ku yiri, sanduuqii ayaa iga soo dhacay intii aan isbitaalka ku jiray, marka waa inaad adigu mas'uuliyadda qaadaa. Yami way wareertay, mana ay fahmin waxa dhacaya. Waxay weydiisay sideen mas'uuliyadda kugu qaadaa. Wuxuu u soo jeediyey inay cunto martiqaad ah u samayso. Wuxuu kaloo ku adkeeyey haddii ay dareemayso inay dembi iga gashay, inay tahay inay 10 jeer cunto martiqaad ah ay ii soo diyaariso. Haddii ay diido, waa inay bixisaa 1 milyan oo lacagta Chinese-ka ah oo magdhow ah, kadibna ay shirkadda isaga tagtaa. Si ay shaqadeeda u haysato, Yami ma ay haysan waddo kale oonan ahayn inay ogolaato. Muddo yar kadib, waxaa la gaaray xilligii shaqada laga baxayay. Jinjaak ayaa fariin u soo diray Yami xilligii loogu talagalay. Wuxuu ka codsaday inay ku kulmaan iridda shirkadda 7 fiidnimo. Isla markii ay gaariga gashayba, Yami waxay tiri, cunto iska fudud uun baynu soo cunaynaa. Waxay islahayd arrintan looma tixgelin karo ballan jacayl. Kadibna waxay geysay maqaayad yar oo cuntooyinka fudud lagu iibiyo. Jinjaak oo ah nin ka dhashay qoysasaka dabaqada sare ah, aad ayuu ula yaabay markii uu arkay isagoo wax ka cunaya maqaayad dadka caadiga ah loogu talagalay. Maadaama ay tani ahayd ballantoodii ugu horeysay ee Yami, wuu iska aqbalay oo wuxuu dhadhamiyey cuntadii. Ma uusan filayn in maqaayadan dadka caadiga ah ay cunto sidan u macaan yeelan karto. Kadibna si kedis ah cunto ugu soo dhacday shaarkiisa. Markii ay Yami aragtay, waxay si degdeg ah u soo qaadatay maro si ay xabadkiisa uga tirtirto. Isna wuxuu u sheegay in waxa ay samaynayso ay keenayso inuu xishood dareemo. Yami markiiba xishood ayaa wejigeeda qabsaday. Ka hor intaanay sharaxaad bixinin, ayuu Jinjaak bilaabay inuu ku jeesjeeso. Ballantoodii ugu horeysayna waxay u fashilantay sababtaas awgeed. Markii uu guriga ku laabtay, Jinjaak wuxuu fiiriyey wasakhdii ku hartay shaarkiisa, wuxuuna bilaabay inuu ka fekero wixii dhacay. Markaasuu dib u xasuustay muuqaalkii ahaa in Yami ay aad ugu dhowdahay. Markii uu in badan ka fekeray, ayuu garowsaday inaanay taasi riyo ahayn ee ay run ahayd. Farxadiisa ayuuna qarin waayey. Subaxdii xigtay oo ay ahayd dhammaadkii toddobaadka, ayuu Jinjaak soo wacay Yami, wuxuuna u sheegay inay mar kale banaanka u baxaan si ay wax u soo cunaan. Yami ma ay haysan fursad kale, waxayna walaalkeedii yaraa uga tagtay Hayaan si uu u haayo. Jinjaak isagu dhar aad u qurux badan ayuu soo xirtay, wuxuuna goobtii ballanta yimid xilli hore. Isla markii uu gaariga ka degayba, wuxuu soo jiitay indhaha gabdho badan oo halkaas joogay. Isagoo kalsooni isku qaba ayuu u dhaqaaqay xaggii maqaayadda, laakiin waxaa lagu istaajiyey iridda hore. Adeegaha maqaayadda ayaa u sheegay inaanay aqbalin ballan hore, qof kastaana uu qasab ku yahay inuu safka galo. Jinjaak weligii loolama dhaqmin si caynkaas ah. Isagoo xanaaqsan ayuu soo saaray kaarkiisii ganacsiga, wuxuuna ku ruxay adeegihii hortiisa. Wuxuu yiri, waxaan ahay agaasimaha kooxda caanka ah ee DPO, laakiin adeegihii ayaa ku yiri kaarkaaga sanduuqa ku tuur, adiguna nidaamka raac oo safka gal. Jinjaak ayaa bilaabay inuu adeegihii ku dhex murmo dadka hortooda. Yami oo hadda soo gaartay goobta ayaa aragtay waxa dhacaya. Aad ayay u xishootay, markaasay si degdeg ah Jinjaak meeshii uga jiiday. Waxay u sharaxday in dadku halkan saf ugu jireen ilaa subaxdii hore. Waxay u sheegtay in dadku ay rabaan uun inay cunto la qaataan qofka ay jecel yihiin maalinta fasaxa ah. Haddii qof uu xilligan dhibo oo safka ka soo galo, waxay noqonaysaa wax laga xishoodo. Jinjaak ayaa madaxa u ruxay isagoo xishoonaya, wuxuu yiri, maanta waxay ahayd inay noqoto ballanteennii ugu horeysay. Laakiin Yami ayaa ku dooday inaan tan loogu yeeri karin ballan jacayl. Waxay tiri, tani waa uun wax aan kuugu celinayo abalkii aan kugu lahaa. Waxay kaloo tiri, adiga ayaa mar kasta go'aamiya xilliga wax walba dhacayaan. Laakiin Jinjaak ayaa si kedis ah u yiri, waxaan rabaa inaan ku shukaansado si kasta oo ay wax u dhacaan. Yami waxay istiri malaha dhegahaaga ayaan wax maqlaynin, markaasay iska dhigatay qof aan wax
waxba maqlin. Ugu dambayntii adeegihii ayaa u yeeray si ay gudaha u galaan. Jinjaak isagoo faraxsan ayuu gacanta qabtay Yami wuuna ka haystay. Daqiiqadaas waxay Yami dareensiisay kalgacal iyo qiiro weyn. Markii ay cuntadii dhammaysteen labadoodii waxay ku dhex lugeeyeen jidka. Jinjaak ayaa arkay in xariga kabta Yami inuu furan yahay. Markiiba wuxuu u jiiday dhanka kursi yaalay wadada dhinaceeda. Kadibna wuu fadhiistay isaga ayaana gacantiisa ugu xiray xarigii kabta. Yami waxay dareentay xishood iyo dhib maadaama uu falkaas sameeyey. Isaguna wuxuu ku yiri haddii aad xishoonayso koob kafee igu martiqaad. Laakiin Yami waxay soo xasuusatay walaalkeedii yaraa ee guriga keligii ku ahaa. Sidaas darteed waxay diiday soo jeedintii Jinjaak. Markii ay guriga u sii socotay Yami waxay soo xasuusatay sidii uu gacanta u qabtay ee uu ka haystay. Aad ayay u walwalsanayd. Tani waxay ahayd markii ugu horeysay ee ay dhadhamiso dareenka shukaansiga. Sidaas darteed wejigeedii ayaa markiiba guduud noqday. Dhanka kale Hayri waxay asxaabteeda shaqada kala hadlaysay arrimo shaqo. Waxay rajaynaysay inay martiqaado qoraaga lagu magacaabo Hayaan si uu barnaamijkeeda uga soo muuqdo. Waxay hubtay in dadka daawada barnaamijka ay aad u kordhi doonaan. Markii Hayri ay fiirisay sawirka Hayaan waxay dareentay inay meel ku aragtay. Ma aysan xasuusan in isla saaka markii ay banaanka u soo baxday ay aragtay isagoo mooto ku sugaya. Waxay u qaadatay inuu yahay nin cuntooyinka iyo alaabta soo gaarsiiya dadka. Hayaan wuxuu damcay inuu u sharaxo qofka uu yahay, laakiin Hayri waxay u haysatay inuu rabo uun inay magaceeda u saxiixdo maadaama ay caan tahay. Waxay kaloo ku tiri aad baan u mashquulsanahay, markiibana way iska baxday. Dhanka kale xoghaya Jack ayaa xasuusinayay Jinjaak inuu adeegsado dhaqdhaqaaqyo asluubaysan marka uu martiqaadayo gabadha uu jecel yahay. Jinjaak wuxuu dareemay in sirtiisii la ogaaday, markiiba wuu xanaaqay. Wuu dafiray arrintii wuxuuna sheegay in isaga iyo Yami ay u baxaan uun arrimo shaqo. Yami ayaa si kedis ah u maqashay hadalkaas oo dhan. Taas darteed maalintii oo dhan shaqadii xoogga ma ay saari karin. Si ay u tijaabiso dareenka Jinjaak, Yami ayaa fariin u dirtay. Waxay u soo jeedisay inay caawa wada casheeyaan. Wuxuu ka codsaday inay gurigiisa timaado. Markiiba madaxa ayay u ruxday inay ogoshahay. Isagoo ka baqaya inay go'aanka bedesho ayuu gaarigiisii guriga ugu qaaday. Tani waxay ahayd markii ugu horeysay ee Yami ay guriga Jinjaak tagto iyadoo isaga la socota. Sidaas darteed aad ayay u walwalsanay. Si uu xishoodka meesha uga saaro, Jinjaak ayaa jikada keligii galay. Wuxuu bilaabay inuu aad ugu mashquulo diyaarinta cuntada. Yami waxaa aad u cajabiyey xirfadda uu Jinjaak u leeyahay jarista khudaarta oo u muuqatay mid heer sare ah. Markaasay weydiisay inuu inta badan gabdhaha gurigiisa keeno. Wuxuu ugu jawaabay in tani ay tahay markii ugu horeysay ee gabar ay gurigan timaado. Waxay ugu jawaabtay waxaan rumaysanayaa uun waxaad sheegtay. Markii uu Jinjaak cuntadii dhameeyey, wuxuu Yami ka codsaday inay nalka u damiso. Markii ay Yami taa maqashay, cabsi ayaa gashay. Jinjaak ayaa markiiba soo bixiyey shumacyo, wuxuuna yiri in lagu casheeyo iftiin yar ayaa ka jacayl badan iftiinka saydka ah. Yami waxay bilowday inay raadiso meesha nalka laga damiyo balse way weyday. Markii uu Jinjaak arkay taas ayuu Yami horteeda soo istaagay. Waxay u malaysay inuu gidaarka ku cadaadin rabo si uu ugu dhawaado, laakiin si lama filaan ah nalkii uun buu damiyey. Markii uu arkay inay indhaha isku qabatay, wuxuu go'aansaday inuu abaalmariyo. Wuxuu gacanta u geliyey 2 saxan oo cunto ah, wuxuuna u digay inaanay dhulka ku ridin waayo saxanadu waxay ahaayeen kuwa aad qaali u ah. Intaanay hadalkii u celin ayuu si kedis ah ugu dhawaaday. Aad ayay u yaabtay, marna ma ay filayn inuu mar kale sidaas samayn doono. Ma aysan degin ilaa uu saxanadii gacanteeda ka qaaday oo uu miiska saaray. Wuxuu u sheegay inay fadhiisato oo ay wax cunto, wuxuuna u gooyey cad hilib ah si uu dhadhamiyo. Isla daqiiqadaas ayaa gambaleelka albaabka la soo garaacay. Markii uu eegay, wuxuu naxay markii uu ogaaday in aabihiisa uu yimid. Ma uusan garanayn wuxuu sameeyo. Muddo kadib ayuu albaabkii si tartiib ah u furay. Jinjaak aabihii wuxuu dareemay inay wax jiraan, markaasuu gurigii isha la raacay. Isla markii uu soo galayba wuxuu arkay 2 saxan oo hilib ah oo miiska saaran. Markiiba wuxuu weydiiyey Jinjaak inuu qof marti u yahay. Jinjaak si degdeg ah ayuu u dafiray, wuxuuna yiri badanaaba 2 saxan ayaan hal mar wada cunaa. Inkasta oo aabuhu aad u shakiyey, haddana ma uusan sii weydiin karin wax kale maadaama aanu haynin wax caddayn ah. Xilligan Yami waxay ku dhuumanaysay dabaqa sare. Waxay si kedis ah u aragtay sanduuqii horey uga jabay. Yami waxay soo xasuusatay in Jinjaak uu isbitaalka ugu sheegay in qofka iska leh sanduuqa uu qof kale yahay. Aad ayay u xiisaysay, markaasay sanduuqii furtay. Markaas uun bay ogaatay inuu ku dhex jiro maradii ay kaga tagtay 3 sano ka hor. Isla markaas aabuhu wuxuu weydiiyey in gabadh ay dabaqa sare ugu dhuumanayso. Jinjaak markiiba wuu diiday. Aabuhu ma rumaysan, markaasuu kor ugu kacay si uu u soo hubiyo, balse qofna ma uusan arkin. Wuxuu markiiba is yiri malaha dhawaaqii aad maqashay bisad ayaa samaysay, markaasuu iska daayay su'aalihii. Markii uu Jinjaak aabihiisa guriga ka fasaxay, ayuu si degdeg ah kor ugu cararay. Wuxuu maqlay dhawaaq ka soo baxaya kabarka dharka. Wuxuu xaqiiqsaday inay halkaas ku dhuumanayso. Markii uu albaabkii kabarka furay, waxay mar kale isku yimaadeen isku dhawaansho aad u weyn. Yami mar kale ayay walwashay. Markiiba waxay raadsatay marmarsiyo ay guriga Jinjaak kaga tagto. Markii ay isdejisay, waxay soo xasuusatay wixii dhacay 3 sano ka hor. Xilligaas way argagaxday oo way ka carartay, waxayna raacday taxi. Gaariga dhexdiisa ayay ku ogaatay inay weyday maradii ay wadatay. Waxaa soo baxday in Jinjaak uu maradaas sanduuq ku hayay sanado badan. Xilligan Yami dareenkeedu aad buu u kacsanaa. Dhanka kale gudoomiyaha oo Jinjaak aabihiisa ah wuxuu dib u xasuusanayay habdhaqankii la yaabka lahaa ee wiilkiisa ee shalay. Gudoomiyaha markii uu in badan ka fekeray, waxay ula muuqatay wax aad u la yaab badan. Sidaas darteed wuxuu amar ku siiyey xoghaya Jack inuu si qarsoodi ah ula socdo dhaqdhaqaaqa Jinjaak si uu ula joogo gabadha uu hoos ka jecel yahay. Jinjaak wuxuu ka dhigtay Yami khabiiradiisa nafaqada ee gaarka ah. Wuxuu kaloo u sheegay inay u raacdo safarada shaqo marka loo baahdo. Subax hore Jinjaak wuxuu yimid irida hore ee guriga Yami. Wuxuu arkay inay weli xiran tahay isla dharkii madowga ahaa ee ay sanadkii hore haysatay. Markiiba wuxuu ku kaftay
kaftamay in sanado badan ay ka soo wareegtay kulankoodii haddana aanay iyadu waxba iska bedelin kadib markii uu ka caawiyey inay boorsada dhigato markaas bay Yami ogaatay inay u socdeen goobtii dalxiiska ee ay isku barteen Jinjaak 3 sano ka hor waxay u sheegtay in goobtan ay ku leedahay xasuuso xun markaasay madaxa ruuxday si ay raaligelin u siiso waxayna damacday inay cararto isagu uma uu haysan diidmadeeda wuxuuna ku adkaystay inuu hoteelka gudaha u geliyo maalintii shaqada waxay ku dhamaatay si degdeg ah Yami waxay qolkeedii ku laabatay iyadoo jirkeedu uu aad u daalan yahay laakiin isla daqiiqadaas ayaa gambaleelka albaabka la soo garaacay markii ay albaabkii furtay waxay aragtay inaanay cidna joogin marinka hoteelka laakiin waxaa dhulka yaalay sanduuq hadiyad ah oo aad qaali u ah markii ay furtay waxay ku dhex arkay laba joog kabo iyo dhar aad u qurux badan waxaa kaloo ag yaalay qoraal yar oo uu Jinjaak u soo qoray wuxuu u sheegay inay dharkaas xirato waayo wuxuu rabaa in gabadhii xasuustiisa ku jirtay ay mar kale hortiisa soo istaagto markaas Yami dharkii xiratay banaankana u soo baxday Jinjaak isna wuxuu ku sugayay goobtii ay ku ballameen markii uu arkay iyadoo dhar intaas leeg xiran markiiba wuxuu dareemay soo jiidasho weyn daqiiqadaas waxay u muuqatay sidii inay labadooda oo kaliya ku soo hareen maqaayadda hoteelka Yami waxay si tartiib ah ugu soo dhawaatay Jinjaak si lama filaan ah adeegihii maqaayadda ayaa ku dhawaaday inuu ku dhaco mar kale Jinjaak ayaa u soo cararay si uu u qabto sidii markii ugu horeysay ee ay kulmeen indhahoodii ayaa markiiba isku dhacay Yami waxay dareentay walwal si degdeg ah ayayna uga baxday gacmaha Jinjaak inkasta oo ay Yami ku jirtay xaalad yara wareer ah haddana Jinjaak ma uusan ilaawin inuu ku jeesjeeso wuxuu weydiiyey inay doorbidayso inay ku tiirsanaato isaga halkii ay cabitaanka cabbi lahayd iyadu waxay dareentay dib waxayna damcay inay ka dhaqaaqdo isla xilligan waxa u yimid maareeyihii hoteelka iyo adeegihii maareeyuhu wuxuu Yami u muujiyey inay ka xun yihiin wixii dhacay oo ah in adeeguhu uu ku dhici lahaa waxay xataa si ula kac ah u siiyeen Yami dhalo cabitaan ah kadib shaqaalihii waxay si macno leh u fiiriyeen Jinjaak intaanay bixin ka hor waxay u rajeeyeen labadooda inay waqti fiican qaataan isla markii uu maareeyihii baxayba Jinjaak ayaa dafay dhaladii cabitaanka wuxuu yiri aniga u haynaya Yami wuxuu yiri haddii kale way ka jabi kartaa mar kale Yami waxay ku dooday in maareeyuhu iyada uu siiyey markaasna ay tahay inay iyadu haysato labadoodu waxay bilaabeen inay dhaladii cabitaanka ku dhex murmaan oo ay iska soo jiijiidaan isla dhex bartamihii murankooda Yami ayaa si kedis ah isugu tuurtay gacmaha Jinjaak xaaladan ayaa mar kale gelisay wareer iyo xishood wixii 3 sano ka hor ka dhacay xeebta waxay ahaayeen wax uu Jinjaak weli iloobahay mar kasta oo uu arko sanduuqaas wuxuu soo xasuusan jiray habeenkaas laakiin xilligan weli ma uusan ogeyn in Yami ay hore u ogaatay sirta sanduuqa ku dhex jirta si degdeg ah ayuu u dhameeyay shaqadii uu u yimid goobta dalxiiska kadibna wuxuu geeyey barkada dabaasha wuxuu u sheegay inay maanta si raaxo leh ay u nastaan isagoo ku jira barkada dhexdeeda Jinjaak ayaa gacanta u soo taagay Yami wuxuuna ka codsaday inay kor u soo jiido si lama filaan ah markii ay gacanta u dhiibtayba isaga ayaa barkada dhexdeeda ugu soo jiiday aad ayay u naxday waxayna bilowday inay garabka kaga garaacdo iyadoo leh isiida ah markaasay dhankii qarka u dabaalatay si ay meesha uga baxdo laakiin markii ay gadaal u fiirisay waxay aragtay isagoo biyihii dhex jiifa oo aan dhaqdhaqaaqayn markii hore waxay u haysatay inuu ku kaftamayo balse waxay soo xasuusatay hadalkiisii hore ee ahaa inuu dareemayo muruq xanuun markaasay istiri malaha xaalad khatar ah ayuu ku jira markiiba waxay bilowday inay u qayliso gurmad intii ay shaqaaluhu hubinayeen inay wax khatar ahi jiraan Jinjaak ayaa si qarsoodi ah gacanta ugu tilmaamay inay isaga tagaan markaasay shaqaalihii marmarsiiyo ka dhigteen inay gurmad dheeraad ah u soo wacayaan Yami ayaa keligeeda halkaas ku soo hartay iyadoo wareersan mana aysan garanayn waxay ku samayso ninkan iska dhigay qof miyir doorsoon iyadoo u haysata inuu dhimanayo ayay tidhi weligay kama qoomamayn wixii dhexdeena ka dhacay habeenkaas Jinjaak weli wax jawaab ah ma bixinin Yami waxay noqotay qof aad u kacsan oo walwalsan waxay tidhi waxaan arkay maradii sanduuqa ku jirtay Jinjaak markuu hadalkaas maqlay ayuu ishayn waayay oo markiiba uu fadhiistay markaas bay Yami garatay in wax kasta oo dhacay ay ahaayeen jilid iyo iska yeelyeel Jinjaak ayaa markiiba sanduuqii soo bixiyey dibna ugu celiyay Yami wuxuu yiri kani waa hanti hadda ku noqotay qofkii iska lahaa Yami ayaa ku jeesjeestay Jinjaak iyadoo leh waxaad tahay nin waalan laakiin wuxuu ugu jawaabay haddii aanad shaygan kaga tagi lahayn maalintaas malaha ma awoodi lahayn inaan xasuusto wixii dhacay waqtigaas hadalkaas kaliya ayaa qalbiga Yami aad u taabtay markay aragtay inaanu feejignayn ayay sidow ugu dhawaatay kadibna si lama filaan ah markan isaga ayaa soo jeestay markaasuu si qoto dheer isku sii dhawaadeen intaas kadib labadoodii oo gacmaha ishaysta ayaa ku laabtay qolka nasashada waxay dareemayeen inay aad isugu dhow yihiin oo ay dib ku tahay inay kala tagaan markii ay Yami u soo jeesatay inay albaabka qolkeeda xirato Jinjaak ayaa albaabkii soo riixay wuxuu isku dayayay inuu keeno su'aal kasta oo uu waqtiga ku kordhin karo si aanu uga tegin si lama filaan ah Jinjaak wuxuu weydiiyey waxa ay ka dhigan yihiin xarfaha ku qoran maradii Yami way garan weyday sida ay u sharaxdo markaasay si xishood leh albaabka ugu xirtay laakiin isagu wuu istaajiyey wuxuuna ka codsaday inay casho u baxaan si adag ayay ugu tiri habeen wanaagsan markii ay maqashay shanqarta uu ka samaynayo albaabka banaankiisa waxay dareentay farxad iyo macaan badan oo qalbigeeda ku dhashay xilligan Jinjaak aabihiisa wuxuu ogaaday xiriirka cakiran ee u dhexeeya wiilkiisa iyo Yami laakiin si toos ah uma uusan weydiin wiilkiisa balse wuxuu si qarsoodi ah u baaray xaaladda qoyska Yami markii ay shirkadda timid Yami waxay fariin u dirtay Jinjaak si ay u weydiiso inuu qado u soo baxayo iyo in kale ase yeeshee waxay ka heshay jawaab kooban oo qalafsan markiiba waxay u dirtay fariin kale si ay ugu jeesjeesto waxay u sheegtay in caawa uu yahay dhalashadii eygeeda sidaas darteedna aanay awoodi doonin inay arki karto Jinjaak wuxuu isweydiiyey inuu eygii ka adkaaday oo eygu uu ka muhiimsan yahay kadibna hayaan ayaa yimid shirkadda si uu Yami uga soo
qaado shaqada kadib. Laakiin Jinjaak ayaa isna si lama filaan ah shaqadii uga soo baxay oo arkay iyagoo wada socda. Jinjaak wuxuu markiiba soo xasuustay in Yami ay tiri waxay u dabaaldegaysaa dhalashada eygeeda, wuxuuna dareemay inay wax qaldan yihiin dukaanka dhexdiisa. Yami iyo Hayaan waxay ka soo iibsadeen agabkii cuntada. Kadibna waxay guriga ku dabaaldegeen dhalashadii walaalkeedii yaraa. Si lama filaan ah, Jinjaak ayaa soo muuqday isagoo sita boorso weyn oo ay ku jirto cuntada eyda. Markaas bay Yami hooyadeeda garatay in ninkan yimid uu yahay agaasimaha shirkadda. Hooyadeeda ayaa weydiisay in gabadheedu ay marti qaaday, laakiin Jinjaak ayaa markiiba ku jawaabay inuu yimid sababtoo ah wuxuu maqlay in maanta uu jiro dabaaldeg dhalasho. Jinjaak wuxuu fiiriyey walaalkeedii yaraa ee Yami isagoo yaaban, wuxuuna weydiiyey kan miyuu ahaa ilmihii. Yami hooyadeeda ayaa markiiba ku tidhi ha. Tani waxay ka dhigtay Yami inay xataa garan weydo waxay ku jawaabto. Jinjaak isla markii uu fariistayba wuxuu bilaabay inuu Hayaan ku fiiriyo indho xanaaq iyo welwel ay ka muuqato. Nasiib wanaag, Yami ayaa walaalkeedii yaraa ka haysay, markiibana ku soo laabatay. Markaas bay ku guulaysatay inay ka hortagto in labada nin ay dagaalamaan. Kadib labadii nin ayaa kor u qaaday koobabkii cabitaanka. Inkasta oo ay iska dhigayeen inay jawiga dejinayaan, haddana midkoodna ma doonaynin inuu kan kale u tanaasulo. Ugu dambayntii kulankii waxay u bedeleen tartan cabitaan. Muddo yar gudaheeda labadoodiiba way sarqaameen, mana ay garanayn waxay samaynayaan. Yami dib badan ayay ka martay inay Hayaan taksi saarto si uu baxo. Markii ay soo laabatay si ay Jinjaakna u fasaxdo, si lama filaan ah ayuu u diiday inuu tago. Wuxuu yiri ma rabo inaan guriga aado, sidoo kalena ma jecli inaan keligay seexdo. Wuxuu sheegay inaanu doonayn inuu ku laabto guri maran oo uu keligii ku yahay. Yami iyadoo ka cagajiidaysa ayay ku dhex dhaaftay dukaanka. Subaxdii xigtay waxay lahayd tababar shaqo, markaasay hooyadeeda ka codsatay inay Jinjaak sii ilaaliso intay maqan tahay. In yar kadib walaalkeedii yaraa ayaa soo degay si uu u ciyaaro. Jinjaak oo hurdada ku dhibsaday ayaa si kedis ah u soo kacay. Markaas buu ogaaday inuu ku dhex hurday gurigii Yami. Isla markaas hooyadii Yami ayaa u timid oo u sheegtay inay hawl degdeg ah u soo baxday, waxayna ka codsatay inuu u haayo wiilka yar. Inkasta oo Jinjaak aanu weligii jeclayn haynta carruurta, hooyada Yami waxay ku adkaysatay haddii uu rabo inuu raali geliyo Yami inay tahay inay si fiican u daryeelo walaalkeeda yar. Jinjaak isagoo khasban ayuu ogolaaday. Yami waxay u sii diyaarisay Jinjaak daawada madax xanuunka. Wuxuu helay fursad uu ku dhex maro qolkeeda, waxayna indhihiisu ku dhaceen cajalad taalay kabarka buugaagta. Wuxuu u qaatay inay tahay waxyaabaha ay Yami jeceshahay, laakiin aad ayuu u naxay markii uu cajalada dhabarkeeda ku arkay sawirka hooyadeeda. Markiiba kabarkii ayuu dib ugu celiyey. Kadib wuxuu wiilkii u kaxeeyey beerta nasashada. Dadkii beerta joogay oo dhan waxay u qaateen inuu isagu dhalay wiilka. Tani waxay soo jiidatay indhaha haween badan oo beerta joogay. Labadoodu si farxad leh ayay u wada ciyaarayeen. Jinjaak ma uusan ogeyn in aabihiisa uu hore u soo baaray asalka iyo qoyska Yami. Aabihiisa ayaa gaari ku soo maray agagaarka guriga Yami. Isla daqiiqadaas wuxuu arkay Jinjaak oo la ciyaaraya ilmihii yaraa. Wuxuu la yaabay waxa uu wiilkiisu samaynayo, wuxuuna isweydiiyey cidda uu yahay ilmaha uu wiilkiisu dhabarka ku siday. Haweenkii beerta joogay ayaa ammaanay Jinjaak iyadoo leh isaga iyo wiilkiisu waxay u qurux badan yihiin si isku mid ah. Jinjaak wuxuu damcay inuu u sharaxo inaanu dhalin, laakiin wiilkii ayaa dhegta ku dhegay oo u diiday inuu hadlo. Muddo ayuu labalabooday, laakiin ugu dambayntii ma uusan dafirin inuu aabbuhu isagu yahay. Yami waxay ku jirtay tababarkii shaqada, laakiin weli walwal ayaa hayay. Sidaas darteed waxay u soo dirtay fariin ay ku weydiinayso inuu gurigiisii si nabad ah ugu laabtay. Yami weli ma aysan ogaanin in Jinjaak uu ku mashquulsan yahay inuu u qubeeyo walaalkeeda yar. Jinjaak ayaa isagoo wax raba inuu ogaado weydiiyey wiilkii yaraa inta sano ee uu jiro. Wiilkii wuxuu kor u taagay 3 farood. Taas macnaheedu wuxuu ahaa inuu hadda galay sanadkii 3aad. Arrintaas ayaa Jinjaak gelisay shaki weyn. Isaga iyo Yami waxay iyaguna kulmeen 3 sano ka hor. Jinjaak wuxuu isweydiiyey in wiilka yar uu xiriir la leeyahay isaga iyo in kale. Muddo yar kadib Yami ayaa gurigii ku soo laabatay. Markaas bay ogaatay in hooyadeeda ay Jinjaak ka codsatay inuu ilmaha u haayo. Aad ayay u xishootay. Jinjaak wuxuu fursadan u isticmaalay inuu weydiiyo shakiga uu qabo. Wuxuu si toos ah u weydiiyey isagoo leh yaawaya wiilkan aabihii. Yami muddo ayay labalabaysay, balse ugu dambayntii way u sheegi weyday. Waxay ku gaabsatay in wiilka uu la nool yahay hooyadeeda. Kadib waxay damacday inay ilmihii ka haysato oo ay meesha ka tagto. Laakiin Jinjaak wuxuu yiri aad baan u daalanahay maanta maadaama aan ilmo hayay, waxaan u baahanahay inaan yara nasto. Markaasuu si lama filaan ah ugu sii dhawaaday. Yami naxdin darteed ayay meeshii ku qalashay. Jinjaak wuxuu fursad u helay inuu halkaas ka tago, laakiin si lama filaan ah isla markii uu shirkadda gaarayba waxaa su'aalo weydiiyey aabihiisa. Gudoomiyaha ayaa weydiiyey ilaa inta uu qorsheynayo inuu wax walba qariyo. Jinjaak ma uusan fahmin waxa uu aabihiisa ka hadlayo. Markii ay aabuhu soo bixiyey sawirkii isaga iyo Yami ee 3 sano ka hor, ayuu markaas wax walba fahmay. Aabihii wuxuu ku canaantay inuu yahay agaasima shirkad weyn, haddana uu nolosha qaaska ah sidan ugu khalkhalsan yahay. Balse Jinjaak weli ma uusan fahmin ujeedada rasmiga ah ee aabihiisa. Taasina waxay sii kicisay xanaaqii aabaha. Aabuhu wuxuu si toos ah u weydiiyey isagoo leh wiilkii yaraa ma ilmihii adiga iyo Yami si qarsoodi ah idinku dhashayba. Jinjaak wejigiisa naxdin baa ka muuqatay. Wuxuu islahaa malaha aabaha ayaa khaldan, balse aabihiisa wuxuu yiri xataa ilmahaagii ma garanaysid. Jinjaak dhagihiisa ma rumaysan karin hadalkaas, laakiin markii uu ka fekeray in wiilku uu hadda 3 sano jiro iyo habdhaqankii la yaabka lahaa ee Yami markasta oo wiilka la soo hadal qaadabo wuu shakiyey. Markasta oo uu Jinjaak sii fekero wax walba waxay u muuqanayeen kuwa shaki leh. Markaasuu go'aansaday inuu Yami fariin u diro. Wuxuu u sheegay inay kulmaan shaqada kadib. Xilligan Hayri waxay si kedis ah ku ogaatay in hooyada Yami ay ahaan jirtay gabar jisha filimada. Hayri waxay ka walwalsanayd in Jinjaak uusan arrintan ogeyn. Sidaas darteed waxay
qorshaysay inay shirkadda tagto oo ay u sheegto. Hase yeeshee waxay si kedis ah u aragtay Yami oo galaysa gaariga Jinjaak. Iyadoo caraysan ayay gaari kaga daba tagtay. Dhanka kale Hayaan ayaa isna damacsanaa inuu Yami ka soo qaado shaqada. Sidaas ayuu ku arkay wax kasta oo dhacay. Jinjaak oo weji halis ah leh ayaa bilaabay inuu Yami weydiiyo haddii ay jiraan wax ay ka qarinayso oo aanay u sheegin. Iyadu haba yaraatee ma ay fahmi karin waxa uu ka hadlaayo. Sidaas darteed wuxuu gaarigii ku joojiyey wadada dhinaceeda, gacanta ayuu qabtay, wuxuuna ku adkeeyey inay u sheegto wax kasta, xataa haddii ay yihiin faahfaahinta ugu yar ee wixii dhacay 3 sano ka hor. Yami xilligan aad bay u wareertay. Waxay go'aansatay inay gaariga ka degto, markaasay albaabkii furtay. Isaga ayaa si degdeg ah dib ugu soo jiidaya. Kadibna wuxuu u sheegay inaanu dhab ahaantii ku nooleen nolol farxad leh 3 sano ee la soo dhaafay. Sababtoo ah xilligaas iyada ayaa dooratay inay iska tagto iyadoon erey keliya dhihin. Wuxuu u sheegay inuu shaqada oo keliya xooga saari jiray si uu ilaawo, laakiin xaqiiqadu waxay tahay inaanu weligii iloobin. Sidaas darteed wuxuu si degdeg ah uga codsaday inay runta u sheegto. Wuxuu rabay inuu ogaado waxa ku dhacay muddadaas ay kala maqnaayeen. Markii aad loogu cadaadiyey hadalka ayay ugu dambayntii go'aansatay inay sheegto dareenkeeda dhabta ah. Waxay tiri aad baan u cabsanayay. Waxay ka cabsanaysay inuu u maleeyo inay tahay gabar fudud. Si kasta ha ahaatee waxay islahayd arrintaas haba yaraatee may ahayn inay dhacdo markii horeba. Waxay u sheegtay in nolosheeda qofka keliya ee ay waxaas la samaysay uu isaga ahaa. Jinjaak ayaa si naxariis leh laabta u geliyey Yami. Muuqaalkan waxa aragtay Hayri. Waxay damcay inay hore u baxdo si ay wax walba uga kharibto, laakiin Hayaan ayaa si kedis ah dib u soo jiiday. Waxay weydiisay waxa uu rabo inuu sameeyo. Wuxuu u sheegay haddii ay hadda banaanka u baxdo inay ku dambayn doonto xaalad eeb iyo fool xumo ah. Hayri waxay ku tiri Hayaan ha u malayn inaad tahay qof cadaalad u taagan. Waxay tiri ninkaas waa qofka aan jeclahay. Kadib markii ay Hayaan canaanatay, Hayri waxay go'aansatay inay gaarigeeda ka haysato oo ay meesha ka tagto. Hayaan muddo dheer ayuu halkaas iska taagnaa, balse weli ma uusan degin. Maalintii xigtay Yami waxay tagtay shirkadda, waxayna si kedis ah u martay qol agtiisa. Si xog doon ah ayay gudaha u fiirisay. Markaas uun bay ogaatay in Jinjaak uu u diyaarinayay xafiis cusub oo ay iyadu leedahay. Saaxiibadeedii shaqada ayaa markiiba bilaabay inay Yami la yaabaan oo ay ku ammaanaan xafiiska quruxda badan. Waxay islahaayeen habdhaqanka iyo daryeelka la siinayo khabiirada nafaqada waa mid aad u sareeya, laakiin gabar ay wada shaqeeyaan ayaa tiri taasi waxay u dhacaysaa sababtoo ah Yami waa xaaska agaasimaha. Kadib markii ay arrintaas ka doodeen, saaxiibadii kale waa ay baxeen. Waxaa halkaas ku hartay Yami oo keliya, iyadoo yaaban oo garan weyday waxa dhacaya. In yar kadib Jinjaak ayaa fariin u soo diray Yami isagoo ka codsaday inay walaalkeeda yar ay soo kaxayso dhammaadka toddobaadkan. Saddexdoodii waxay ku dhex lugeeyeen beerta nasashada sidii qoys farxad ku nool oo kale. Xataa markay wax cunayeen, adeegihii maqaayadda ayaa si ula kac ah ugu soo jeediyey cuntooyinka qoyska loogu talagalay. Inkasta oo Yami aanay garanayn sababta uu Jinjaak sidan ugu dhaqmayo, haddana markay aragtay walaalkeeda oo aad u faraxsan, wax badan kama aysan fikirin. Markaasay aragtay Jinjaak oo si wanaagsan u daryeelaya walaalkeeda yar. Yami ayaa si kedis ah u dareentay masayr yar. Waxay u sheegtay Jinjaak inay halkan u joogto sidii qof dheeri ah oo aan loo baahnayn. Jinjaak markuu taas maqlay ayuu qoslay. Markiiba wuu qalbi qaboojiyey, wuxuuna u sheegay inuu wax walba go'aamiyey. Laga bilaabo hadda marnaba keligeed kama tegi doono. Fiidkaas Jinjaak wuxuu Yami iyo wiilkii yaraa u geeyey gurigooda. Isla markaas wuxuu u keenay dhar isku mid ah oo uu isagu naqshadeeyey. Wuxuu kaloo u sheegay haddii ay firaaqo leedahay dhammaadka toddobaadka dambe inay wiilka yar gurigiisa u keento si uu u soo ciyaaro. Waxay tiri ma aysan filayn inuu carruurta sidan u jecel yahay. Wuxuu u sharaxay inaysan ahayn inuu carruurta guud ahaan jecel yahay, balse wiilkan yar uu yahay mid ka reeban carruurta kale sababtoo ah wiilku waa qaraabadeeda. Markii ay hadalkaas maqashay, Yami waxay dareentay diiranaan iyo kalgacal gudaha ah. Kadibna Jinjaak ayaa u sheegay xoghaye Jack in isaga iyo Yami laga yaabo hadda inay ilmo wada leeyihiin. Xoghaye Jack aad ayuu u yaabay. Wuxuu weydiiyey Jinjaak waxa uu qorsheynayo inuu sameeyo. Jinjaak ayaa si degan ugu jawaabay in marka uu dhameeyo mashruuca hadda gacanta ugu jira, uu aabihiisa la yeelan doono sheeko dhab ah. Weligiis hore ugama fekerin inuu guursado, laakiin haddii qofkaasi uu yahay Yami, wuxuu diyaar u yahay inuu dadaal kasta u galo. Xilligan Yami waxay ka fekeraysay dhacdooyinkii u dambeeyey. Waxay dareemaysay in wax kastaaba yihiin sidii riyo oo kale. Hayaan ayaa si naxariis leh u xasuusiyey haddii ay rabto inay Jinjaak raacdo, inay labadooduba u dulqaataan caqabado badan oo banaanka kaga imaan doona. Kadibna Yami waxay soo xasuusatay wixii Jinjaak uu maalintii ku yiri. Waxay go'aansatay inay markan raacdo waxa qalbigeedu uu rabo. Inkasta oo Hayaan uu yara murugsanaa, haddana wuxuu go'aansaday inuu Yami garabka siiyo. Habeenkaas Yami waxay banaanka u soo baxday si ay qashinka u tuurto. Si lama filaan ah, waxay wadada dhinaceeda kula kulantay Hayri oo sarqaansan. Hayri markay aragtay gabadhii ay ishayeen, markiiba waxay bilowday inay Yami caydo. Hayri waxay sidoo kale Yami ugu yeertay gabadhii ay dhashay jilaaga filimada. Hayri may fahmi karin sababta Yami ay u tahay qof aan xishood lahayn oo ay ula joogto qof sida Jinjaak oo kale u wanaagsan. Hayri waxay kaloo tiri Yami darteed ayay nolosheedu gabi ahaanba u burburtay. Hayri waxay sidoo kale u haysatay in Yami ay isku dayayso inay ka faa'iidaysato dareenkaas yar si ay ugu dhegto Jinjaak. Waxay islahayd waxay rabtaa inay isaga ku tiirsanaato si ay nolol fiican u hesho. Waxay xataa tiri waxay ka xishoonaysaa inay Yami kula noolaato dalkan Kuuriya. Hayri waxay rajaynaysay in Yami ay dareento oo ay si aamusnaan ah meesha uga lunto. Erey kasta oo Hayri ay tiraahdo wuxuu dhaawacay Yami, indhaheeduna waxay ka buursameen ilmo. Laakiin Hayri weli ma aysan quusanin. Markaas gaarigii u kaxaysay guriga Jinjaak si ay ula kulanto. Waxay si jees ah u tiri xiriirka isaga iyo Yami ka dhexeeya waa uun hal habeen iyo wax ka dhacay. Waxay tiri anigu waxaan ku sugayay 10 sano, dhammaan daacadnimadeyduna ma u dhiganto hal habeen oo Yami aad la qaadatay.
qaadatay. Markan Jinjaak ma uusan dooranin inuu aamusnaado. Wuxuu u sheegay Hairi in habeenkaas darteed noloshiisu gebi ahaanba isbeddeshay. Wuxuu yidhi isaga agtiisa Yami waa gabadha ugu xooggan. Kadib markii uu hadalkaas yidhi wuxuu toos u galay gurigiisii. Hairi ayaa keligeeda banaanka ku hartay iyadoo dhulka ku dhacday oo ooyeysa. Subaxdii xigtay Jinjaak aabihiisa ayaa si qarsoodi ah u tagay guriga Yami. Markii uu waayay cid fiiro gaar ah u leh ayuu dukaanka gudaha u galay. Isla markii uu fiiriyeyba wuxuu fahmay wiilkii yaraa. Isagoo dukaanka isha la raacaya oo cidna uusan arkin ayuu u dhawaaday si uu timaha uga jaro si uu baaritaan DNA ah ugu sameeyo. Geesinimadiisii waxaa aragtay Yami hooyadeeda. Waxay weydiisay waxa uu samaynayo iyo sababta uu u dhiiraday inuu taabto carruurta. Wuxuu ku adkaystay inuu yahay xubin qoyska ka mid ah. Markii ay Yami hooyadeeda taas maqashay iyadoo caraysan ayay weydiisay qofka uu yahay. Isagu ma uu doonayn inuu hadal badan dhiibo. Weli wuxuu ku adkaysanayay inuu dhowr xarig oo timo ah ka jiro wiilkii yaraa. Yami hooyadeeda waxay aragtay inuu ninkani aad u madax adag yahay. Markaasay qaylo dheer ku dhufatay. Yami ayaa maqashay qayladii waxayna si degdeg ah uga soo carartay dabaqa sare. Markaas uun bay ogaatay in gudoomiyihii uu halkaas yimid. Markaas uun buu aabbuhu sheegay inuu rabo inuu xaqiijiyo in wiilka yar uu yahay wiilka Jinjaak iyo in kale. Ka hor intaanay Yami jawaabin, Jinjaak ayaa isna goobtii soo gaaray isagoo aad u walwalsan. Wuxuu aabbihiisa weydiiyey sababta uu halkan u yimid. Aabbihii wuxuu yidhi aad baad ugu gaabisay inaad tallaabo qaado marka aniga yimid si aan u xalliyo. Yami waxba ma aysan fahmin. Waxay Jinjaak weydiisay waxa socda. Jinjaak ayaa isagoo hadalka ka turunturoonaya ayuu sheegay inuu muddo dheer wax walba ogaa. Si kedis ah Yami hooyadeeda ayaa hadashay oo tiri wiilkan waa wiilkayga. Waxayna weydiisay waxay ka rabaan ilmaheeda. Jinjaak iyo aabbihiisa ayaa aad u yaabay markay taas maqleen. Markaas uun bay garteen inay khaldanaayeen. Si uu u hubaal ka dhigo, Jinjaak wuxuu Yami gees u kaxaystay si ay si gaar ah ugu wada hadlaan. Wuxuu ka codsaday inay runta u sheegto. Waxay u sharaxay in wiilku uu yahay ilmaha ay hooyadeed guriga u keentay. Wuxuu ahaa walaalkeed oo isku hooyo ah yihiin. Markii uu Jinjaak taas maqlay, naxdin ayaa ku dhacday. Markiiba wuxuu dareemay xishood iyo qoomamo ku aadan ficiladiisii dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay. Yami markaas uun bay garatay inuu Jinjaak u haystay in wiilka yar uu yahay wiilkeeda muddadaas oo dhan. Labadoodii ayaa isfiiriyey iyagoo hadal ka soo bixi waayey. Markii ay guriga ku laabteen, Jinjaak aabbihiisa ayaa canaan ku bilaabay. Aabbuhu ma uusan fahmi karin sababta wiilkiisu uu u shukaansanayo gabar sida Yami oo kale ah. Dhanka kale, Jinjaak wuxuu si adag ula dhaqmay Hairi. Ka hor intaanu Jinjaak wax sharaxaad ah bixinin, aabbihiisa wuxuu ku adkaystay in gabadha ay dhashay jilaaga filimada aysan waxba ka duwanayn hooyadeeda. Xilligan Jinjaak ma uusan heli karin sharaxaad macquul ah oo uu aabbihiisa ku qanciyo. Aabbihiisna ma ahayn qof si fudud arrintan ku daynaya. Wuxuu si cad u diiday in Yami ay mar dambe wiilkiisa hortaas soo istaagto si uu u difaaco gabadha uu jecel yahay. Jinjaak wuxuu markii ugu horeysay ku dhiiraday inuu aabbihii la murmo. Wuxuu u sheegay aabbihiisa inaanu u ogolaan doonin inuu taabto xataa hal xarig oo ka mid ah timaha Yami. Aabbuhu aad ayuu ula yaabay xanaaq iyo go'aanka adag ee wiilkiisa. Balse aabbuhu wuxuu ahaa nin waayo arag ah oo wax badan nolosha ka soo arkay. Sidaas darteed uma uu qabanayn hanjabaada wiilkiisa. Dhanka kale, Hairi oo uu wadna xanuun iyo niyad jab ku dhacay ayaa xakamayn iska weyday. Waxay iyadoo ooyeysa kaga hadashay barnaamij telefishan ah. Sheekadan ayaa si degdeg ah ugu baahday bogga hore ee jaraydka waaweyn. Waxay qoreen in agaasimaha shirkadda uu isku marjecel yahay laba qof. Dadka isticmaala internetka ayaa bilaabay dood kulul. Hairi waxay noqotay qofka ay dadku sida aadka ah u hadal hayaan. Isla xilligaas, Yami qudheeda waxaa ogaaday dadweynihii. Hanta asxaabteeda shaqada iyo sawaxanka internetka ayaa Yami ku noqday dharbaaxo culus oo ay u dulqaadan weyday. Maalintii xigtay markii ay Yami shaqada timid, isla markii ay irida gashayba waxay aragtay Jinjaak oo ku soo socda. Labadoodu si aamusnaan ah ayay isku fiiriyeen. Xaqiiqada qaraar ee jirta ayaa ka dhigtay Yami inay ka soo toosto riyadii ay ku jirtay. Waxay u yeertay madaxeedii shaqada waxayna u sheegtay inay leedahay arrimo qofka u gaar ah oo ay tahay inay xaliso. Si lama filaan ah, hadalkii dhex maray iyada iyo madaxdeeda waxaa maqlay Jinjaak. Jinjaak wuxuu naftiisa ku yidhi waa inaan si fiican uga fekeraa inay gabadhani u oydo in ka badan inta ay u qoslayso iyo in kale. In yar kadib, Yami waxay fariin ka heshay Jinjaak. Wuxuu u sheegay inuu rabo inay caawa kulmaan si uu wax u tuso. Iyadu waxay go'aansatay inay ujeedadeeda si cad ugu sheegto. Waxay u sheegtay inuu ka aqbalay madaxdeedii inay shaqada ka tagto, waxayna u muujisay inuu aad ugu mahadsan yahay daryeelkii uu muujiyey muddadaas oo dhan. Isagu wuxuu u fiirinayay si aan la rumaysan karin isagoo yaaban. Jinjaak ayaa Yami weydiiyey inay qorshaynayso inay ka harto isaga, laakiin waxay u muuqatay in tani ay tahay doorashada ugu fiican ee labadoodaba u taala xilligan. Jinjaak isagoo xanuun dareemaya ayuu laabta geliyey Yami, wuxuuna u sheegay inuu fahansan yahay inay dhib ku jirtay dhawaanahan. Isagoo cod xabeebsan ku hadlayay ayuu yidhi kuma ogolaanayo inaad iga cararto, igamana tegi kartid si fudud. Yami waxay ugu jawaabtay inaanay u malaynaynin inay u baahan tahay ogolaanshihiisa. Inkasta oo ay aad uga xumayd, ma ay doonayn inay mar dambe dhibaato ku sii jirto. Markaas uun buu Jinjaak garowsaday in arrintu aanay gacantiisa ku jirin mar dambe. Dab ahaantii wuxuu ogaa in ogolaanshaha inay baxdo ay tahay tan ugu fiican nolosha Yami. Nolosha Yami waa inay sii socotaa kadib markay ka tagto shirkadda. Hadda waxay ka shaqaysaa kafeteriya jaamacadeed oo aad uga fog bartamaha magaalada. Inkasta oo ay inta badan mashquul ku tahay subax ilaa habeen, haddana mashquulkaas ayaa ka caawiyey inayna ka fekerin wax kale. Dhanka kale, Jinjaak qudhiisu wuxuu isku dayay inuu ka baxo xanuunka jacaylka ee dhibaayay. Wuxuu noqday qof shaqada uun u nool. Wuxuu rabaa inuu dareenkiisa ku iloobo isagoo shaqada xoogga saaraya. Gudoomiyaha ayaa dhowaan sheegay inuu isku diyaarinayo inuu maamulka shirkadda uu ku wareejiyo Jinjaak. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu hordhigay hal shuruud. Jinjaak waa inaanu mar dambe ka hor imaan aabihiisa. Haddii kale, wuxuu shirkadda ku
ku wareejin doonaa maamule xirfad yaqaan ah si uu maamulo. Hadda Jinjaak waa inuu doortaa midkood, dhinac waa mustaqbalkiisa shaqo, dhinaca kalena waa gabadha uu jecel yahay. Dab ahaantii markasta wuxuu rabay inay wada joogaan, laakiin wuxuu ka baqayaa inaanay Yami u adkaysan karin cadaadiska badan ee kaga imaanaya banaanka. Xilligan Yami oo hadda shaqada ka soo baxday ayaa fariin ka heshad Hayaan. Si degdeg ah ayay banaanka ugu soo baxday, waxayna aragtay weji ay taqaano oo ay u xiistay. Waxay dareentay raaxo iyo deganaan. Labadoodii waxay fadhiisteen wadada dhinaceeda iyagoo ka sheekaysanaya waxyaabo yaryar. Wuxuu weydiiyey sida ay tahay nolosheedu. Wax yar ayay fikirtay, waxayna ugu jawaabtay haddii Jinjaak uu go'aansaday inuu hore u socdo, markaas aniguna ma sii fikiri karo wixii hore u dhacay. Isagoo guriga u sii dhaweynaya Yami, Hayaan ayaa isdhiirigeliyey wuxuuna u qirtay dareenkiisa. Wuxuu u sheegay inuu jecel yahay. Inkasta oo aanu garanayn goorta dareenkaasi uu bilaabmay, haddana wuxuu dareemay inuu garowsaday isagoo yara soo daahay. Laakiin wuxuu go'aansaday inuu u sheego waayo malaha weli fursad ayuu u leeyahay. Markay aragtay Hayaan oo si lama filaan ah u noqday qof dhab ah, Yami waxay dareentay inay ka xun tahay, sababtoo ah may u haynin dareen la mid ah kan uu hayo. Sidaas darteed waxay laabta gelisay si ay u qalbi qaboojiso. Meel aan fogeyn waxaa ka soo muuqday qof. Hayaan ayaa madaxa kor u qaaday, wuxuuna arkay inuu yahay Jinjaak. Isla daqiiqadaas Jinjaak wuxuu dareemay wadne xanuun iyo naxdin markii uu arkay Yami oo hab siinaysa nin kale. Isagoo garan waayay wax uu sameeyo ayuu markiiba dib u soo laabtay oo wuu iska baxay. Hayaan wuxuu markii hore rabay inuu Yami u sheego inuu Jinjaak arkay, laakiin markii uu hadalkii soo bixi waayay ayuu uun macasalaameeyey oo wuu baxay. Dhanka kale Yami hooyadeeda ayaa ka qayb gashay barnaamij telefishan ah si ay dad badan u soo jiidato. Waxay kashiftay sheekadii jacaylka ee dhex martay gabadheeda iyo wiilka uu dhalay milkiilaha shirkadda. Isla markaas waxay kaloo ka sheekaysay sidii uu gudoomiyuhu ugu khaldamay in wiilkeeda yar uu yahay wiil uu Jinjaak dhalay. Markiiba dadkii madasha fadhiyey oo dhan ayaa bilaabay inay xantaas isla dhex maraan. Wax yar kadib markii barnaamijkaas la baahiyey, Yami oo jaamacadda joogta ayaa si kedis ah ku ogaatay warkaas. Saaxiibadeedii shaqada ayaa la yaabay markay garowsadeen inay iyadu tahay gabadha ka shaqaysa kafeteriga jaamacadda. Muddo yar gudaheeda xogtaas waxay ku baahday jaamacaddii oo dhan. Yami waxay mar kale ku dhacday dhexbartanka xanta dadka. Ardaydu waxay bilaabeen inay gadaasheeda si xun uga hadlaan. Xantaas iyo sawaxanka hareeraheeda ka dhashay waxay ka dhigeen inay u dulqaadan weydo oo ay maskax ahaan dhibaatooto. Xilligan xoghaye Jack ayaa si degdeg ah ugu sheegay Jinjaak xaaladda jirta. Jinjaak wuxuu ahaa qof wareersan oo aan garanayn go'aanka uu qaato. Markii uu taas arkay, xoghaye Jack wuxuu si geesinimo leh ugu sheegay dareenkiisa dhabta ah. Wuxuu yiri haddii Jinjaak uu dhab ahaan uu jecel yahay Yami, waa inaanu fursadan uusan lumin. Wuxuu ku yiri waa inaadan farxadaada ku lumin xanta iyo hadal haynta dadka. Markii uu hadalkaas maqlay, Jinjaak indhihiisa ayaa furmay, wuxuuna si degdeg ah u qabsaday jaakadkiisa isagoo u orday meeshii ay Yami ka shaqaynaysay. Laakiin waxaa loo sheegay in Yami ay goobta ka tagtay muddo ka hor. Wuxuu u diray fariimo iyo wicitaano aan tiro lahayn, balse cidna ma aysan ka jawaabin. Wuxuu is yiri malaha guriga ayay joogtaa, markaasuu gaarigii u kaxaystay si degdeg ah. Laakiin intaanu guriga gelin, wuxuu feer kala kulmay Hayaan. Isla markaas Hayaan wuxuu ku qayliyey Jinjaak isagoo leh adiga dartaada ayay Yami u martay cadaalad darradaas iyo dhibkaas weyn. Hayaan wuxuu kaloo ku caayay Jinjaak inuu yahay nin aan naxariis lahayn, balse Jinjaak midna umuusan jawaabin, wuxuuna kaliya weydiinayay meesha ay Yami ku sugan tahay. Xilligan ma uusan haysan waqti uu wax kale kaga fikiro. Dhab ahaantii Yami waxay tagtay xeebtii ay ku lahaayeen xasuusaha quruxda badan markii ugu horeysay kulmeen. Laakiin iyadoo halkaas joogta ayaa haweeney aan feejignayn ay madaxa kaga shubtay biyo. Haweeneydii ma raali gelinin Yami, balse waxay xataa ku canaanatay sababta ay halkaas u taagan tahay. Nasiib wanaag haweeney naxariis badan ayaa u soo gurmatay. Markii ay aragtay inay Yami qoyday, waxay u kaxaysay dukaankeeda. Kadibna waxay siisay maro ay wejiga isaga tirtirto, waxayna ku martiqaaday inay cunto la cunto. Haweeneydii waxay u karisay boorashkeeda caanka ah si ay ugu martiqaado Yami. Markii ay Yami dhadhamisay cuntadii, waxay dareentay inay aad u macaan tahay. Si kedis ah waxay u soo xasuusatay hadalkii Jinjaak ee ahaa inuu aad u tabayo boorashkii ay hooyadiis u karin jirtay. Kadib waxay ka fikirtay sidii ay ku kala tageen Jinjaak. Qalbigeeda waxaa ka buuxsamay dareen ah inay wax weyn ay weyday. Inkasta oo ay hadda baratay sida loo kariyo boorashkaas, haddana waxay islahayd Jinjaak malaha fursad uu ku dhadhamiyo mar dambe ma heli doono. Markii ay taa maqashay, haweeneydii naxariista badnayd ayaa Yami amaahisay baaskiilkeeda si ay ugu soo wareegto xeebta. Waxay islahayd malaha Yami dareenkeeda ayaa ku soo degaya haddii ay yara soo wareegto. Dhanka kale Jinjaak ayaa isna soo gaaray xeebta. Wuxuu bilaabay inuu si degdeg ah u raadiyo Yami. Si kedis ah wuxuu u arkay gabar aad ugu eg iyada. Markiiba wuu istaajiyey, laakiin wuxuu garowsaday inuu ku khaldamay oo aanay iyadii ahayn. Isagoo wareersan ayuu gaarigii ku dhex kaxaynayay agagaarka xeebta, wuxuuna si lama filaan ah u garab maray Yami oo baaskiil wadata, balse isma aynaan arkin. Kadib Yami iyadoo murugaysan ayay tagtay isla goobtii ay Jinjaak kula kulantay 3 sano ka hor. Markii ay aragtay goobtii ay aqoonta u lahayd, way iska dayn weyday inay isaga soo xasuusato. Meel aan fogeyn Jinjaak isna wuxuu ka fikirayay Yami. Isla daqiiqadaas Yami ayaa hoos fiirisay markay aragtay qadaadiic dhulka taala. Way soo qaaday, laakiin gacanteeda ayay ka siibatay oo dhulka ayay kaga dhacday. Kadibna qadaadiicdii ayaa ka sii baxsatay. Waxay u oroday inay soo qabato, laakiin waxay arkeen nin cagta saaray oo istaajiyey. Ninkii wuxuu noqday Jinjaak. Wuxuu u soo dhawaaday dhankeeda, wuxuuna u sheegay inuu muddo dheer raadinayay. Yami indhaheedu way guduudnaayeen, ilmo ayaana ka buuxday. Jinjaak dareen ayaa ka awood batay, markaasuu si degdeg ah laabta u geliyey. Habsiintaas waxay qaadatay muddo dheer si ay u buuxiyaan mishiinkii iyo xiisihii ay isku qabeen dhowrkii bilood ee ay kala maqnaayeen. Intaas kadib labadoodii waxay bilaabeen inay xeebta ku dhex lugeeyaan. Tani waxay ahayd markii
markii ugu horeysay ee Yami ay wax walba u qirato Jinjaak. Waxay u sheegtay in dhowrkii sano ee la soo dhaafay ay awoodi weyday inay hooyadeeda cafiso, gaar ahaan markii ay ogaatay inay hooyadeed ahaan jirtay jilaa filimada. Waxay sheegtay inay maalin kasta ku noolayd walwal. Waxay ka cabsanaysay inay dadku dhahaan waa gabadh aan asluub lahayn. Taasina waa sababta ay ugu dhiiran weyday inay xor noqoto oo ay si geesinimo leh wax u jeclaato. Jinjaak ayaa Yami ku fiiriyay in naxariis ka muuqato. Aad ayuu uga xumaaday markuu xasuustay caruurnimadiisii murugada lahayd. Wuxuu bilaabay inuu uga sheekeeyo xasuustiisa markuu yaraa. Xilligaas wuxuu ahaa isla sanadka uu hadda jiro walaalkeeda yar. Si lama filaan ah, maalin maalmaha ka mid ah ayay hooyadiisa iska tagtay. Sanado badan kadib weli ma uu helin hooyadiisa. Taasina waxay ahayd sababta uu isla markii uu wiilka uu arkayba u jeclaaday. Sidaas ayay labadoodu qalbiyadooda isugu fureen. Intaas kadib waxay si farxad leh ugu wada ciyaareen xeebta. Markii ay habeen noqotay, Yami waxay u sii sheegtay Jinjaak in isaga dartiisa ay u dareentay farxad iyo jacayl dhab ah. Jinjaak wuxuu u sheegay isaga iyo iyadu inay weli u dhiman yihiin waxyaabo badan oo ay tahay inay wada qabtaan. Wuxuu ugu dhaartay inaanu marnaba iska sii dayn doonin. Intaas kadib wuxuu si tartiib ah ugu sii dhawaaday. Yami waxay soo xasuusatay dhammaan xasuusaha quruxda badnaa ee ay wada galeen, waxayna u adkaysan weyday inay ka fogaato. Balse markii ay soo xasuusatay digniintii gudoomiyaha oo ah Jinjaak aabihiisa, waxay garowsatay inay yihiin laba qof oo ka soo kala jeeda laba adduun oo aad u kala fog. Hadday ahaan lahayd 3 sano ka hor iyo hadda waxba isma bedelin. Yami waxay dareentay inay la gaaray xilligii ay ka soo toosi lahayd riyadan. Iyadoo ka cagajiidaysa ayay mar kale u dhawaatay, kadibna way ka tagtay iyadoon xataa gadaal u soo fiirinin. Si kastaba ha ahaatee, way ishayn weyday, waxayna bilowday inay oydo iyadoo sii lugaynaysa. Subaxdii xigtay markii uu Jinjaak soo toosay, wuxuu arkay in Yami aanay ku jirin kursiga rakaabka ee gaariga. Sidii 3 sano ka hor ayay mar kale iska tagtay. 3 sano ka hor ma uusan garanayn magaceeda ama wax xog ah oo ku saabsan. Haddana wuxuu awooday inuu 3 sano sugo kulan yar oo kooban dartiisa. Sidaas darteed hadda go'aankiisu wuxuu ahaa mid ka adag kii hore. Hadday ahaan lahayd 3 sano ama 30 sano, wuxuu mar kasta diyaar u ahaan lahaa inuu sugo si ay mar kasta oo ay rabto ugu soo laabato. Kadibna Jinjaak wuxuu u baxay dhankii guriga hooyadiisa. Waxaa soo baxday inuu goobtan yimid marar badan sanadihii la soo dhaafay, balse marnaba ma uusan helin geesinimo uu gudaha ku galo. Si aanu u dareemin qoomamo dambe, Jinjaak wuxuu go'aansaday inuu markan galo. Inkasta oo aanay is arkin sanado badan, hooyadiisa waxay ku garatay deymadeedii ugu horeysay. Waxay weydiisay, ma timid wiilkaygiiyo? Markii uu Jinjaak maqlay su'aashaas, indhihiisu markiiba way guduuteen. Kadibna hooyadiisa waxay u karisay mushaaridii uu aadka u jeclaan jiray markuu yaraa. Boorashkan wuxuu ahaa wax uu Jinjaak sugayay in ka badan 20 sano. Markii uu dhadhamiyey dhadhankii uu aqoonta u lahaa, wuxuu ishayn waayay inuu ooyo sidii ilmo yar oo kale. Hooyadiisa ayaa si lama filaan ah ugu sheegtay inay ogeyd nolosha jacaylkiisa iyadoo ka daawatay TV-ga. Waxay kaloo u sheegtay in Yami ay halkan timid mar hore. Hooyadu waxay sheegtay in Yami ay u qiratay inay isku eedeynayso inaanay aqoon u lahayn karinta boorashka uu Jinjaak jecel yahay. Markii uu arkay sida ay hooyadiisa u fiirinayso, markiiba wuxuu garowsaday waxa ay tahay inuu sameeyo. Markaasuu kacay oo hooyadiisa ayuu laabta geliyey. Dhanka kale, Yami waxay TV-ga ka aragtay waraysiga hooyadeeda. Hooyada Yami waxay dadka la wadaagtay inay ahaan jirtay jilaa filimada, balse waxay tiri dadku waa inaanay gabadheeda u takoorin arrintaas dhalanteedka ah. Hooyada Yami waxay fiirisay kamarada, waxayna gabadheeda ku dhiirigelisay inaanay ka gaban indhaha dadka iyo xantooda. Waxay kula talisay inay mar kasta ku noolaato kalsooni ilaa inta ay nafteeda mas'uul ka tahayna ay taasi ku filan tahay. Haddii aad qof jeceshahay, si geesinimo leh ugu orod jacaylkaaga, ayay tiri hooyadu. Markii ay maqashay hadalladaas dhiirigelinta ah, Yami waxay go'aansaday inay raacdo waxay qalbigeedu u rabo. Waxay fariin u dirtay Jinjaak iyadoo u sheegtay inay ku sii socoto shirkadda. Jinjaak isna wuxuu u sii socday guriga Yami. Markii uu maqlay inay shirkadda ku socoto, wuxuu isku diyaariyey inuu dib u soo laabto. Si lama filaan ah, waxaa soo wacay aabihiisa. Aabihiisa ayaa amar ku siiyey inuu si degdeg ah u soo noqdo. Jinjaak wuxuu si adag ugu jawaabay inaanu hadda kadib u baahnayn shirkadda iyo xilka dhaxaltooyada midna. Aabihiisa aad ayuu ula yaabay hadalkaas. Aabihiisa wuxuu u qaatay in wiilkiisu u waashay. Jinjaak wuxuu xaqiijiyey inuu wax kasta ka tanaasuli karo, balse aanu marnaba ka tanaasuli karin Yami. Wuxuu yidhi, mustaqbalkayga shaqo dib ayaan ka bilaabi karaa, laakiin haddii aan iyada lumiyo, inta noloshayda ka hartay ayaan ka qoomamayn doonaa. Jinjaak ayaa markiiba telefoonka ku damiyey aabihiisa, wuxuuna u orday dhankii shirkadda. Ugu dambayntii labadoodii waxay ku kulmeen iridda hore ee shirkadda. Jinjaak ayaa gacmaha u kala qaaday si uu u soo dhoweeyo. Yami iyadoon meel fiirin indhaha dadka hareeraheeda taagan ayay si orod ah isku tuurtay laabtiisa. Dadkii oo dhan hortooda ayay isugu qirteen dareenkooda jacayl. Kadibna waxay isa siiyeen laabgelin aad u qoto dheer. Wax yar kadib, warkii ku saabsanaa xiriirka Jinjaak iyo Yami ayaa mar kale qabsaday boggaga hore ee jaraa'idka. Yami hooyadeeda ayaa aragtay warkaas, aad ayayna ugu faraxday gabadheeda. Hayri inkasta oo aanay ku faraxsanayn, haddana ma ay haysan fursad kale oo aan ahayn inay ka dhex baxdo labadooda. Gudoomiyaha markii uu arkay in wiilkiisu go'aan adag uu ku qabo Yami, wuu iska daayay diidmadii. Fiidkaas Hayaan ayaa Hayri ku martiqaaday cabitaan iyo sheeko. Sidii caadada u ahayd, wuxuu u sheegay inuu qorsheynayo inuu safar dunida ku maro. Wuxuu kaloo weydiiyey inay rabto inay raacdo iyo in kale. Hayri markay taas maqashay, way ogolaatay. Si lama filaan ah, jawigii ayaa isbedelay, waxaana dhex maray dareen yar oo xishood iyo raaxo isugu jira. Meel kale, nin oday ah ayaa soo galay guriga Yami, wuxuuna markiiba laabta geliyey wiilkii yaraa. Waxaa soo baxday in ninkaasi uu ahaa aabbaha dhabta ah ee dhalay wiilka, waana ninkii ay hooyada Yami hore u guursatay. Wuxuu hooyada Yami iyo wiilkeeda ku helay barnaamijka waraysiga ahaa ee ay TV-ga kaga qayb gashay. Wax yar kadib waxaa la dhigay arooskoodii. Jinjaak wuxuu arooskaas uga soo qayb galay
bedelay isagoo ah saaxiibka rasmiga ah ee Yami. Arooska kadib labadoodii waxay raaceen gaarigoodii si ay safar ugu baxaan. Indhahooda waxaa ka muuqday jacayl iyo kalgacal xad dhaaf ah. Jinjaak wuxuu hore u ballan qaaday in maalin walba uu la joogi doono. Haddana riyadaas wuu ka dhabeeyay. Filinkuna halkan ayuu ku dhamaaday. Muuqaalka like saar haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka subscribe dheh gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsani.